ما دي بقى. السلام عليكم أصحابتي واني سلام دمتين وردق دق أصحابتي شيكان يا وردق دق هلي شرقري هلي شرقري سويا عورت أصحابتي دمان واني برشوان مقعي أحمد يدو محمد الله ولي قول الله شاهي حاليسو يا dadkii sawacay koolka iga daayaan live ku jira waa aragtiin koolka laga daayo please and please sheekada waxa qadaro ee dawladda Soomaaliya wado ninkii gabadha la shaahay walaashay ma bixinin walaashay ma dhiibin dadkii dhiiba u baahana walaashay naag la qabo waaye meesha joogaanaysa warsada afka jooga asxaabe magaciisa saddexna waa sheegay dadkii yaqaan inta aqoon Axmed Yido Maxamed Ali dhaha gabadha walaasheeda ay walaashay jireer ma siin mana siin doon ninkii walaashay jireer siin aasiyo asaga wataala ala soo yaa horta video ay shir garay marka sheeko kale cusub waan ayaa faantay dawladda Soomaaliya waxa leeyahay fudaadkii iyo akhlaaq xumada iyo madaxdeen waxa leeyahay sidii u fudaadeen balaxo kale soo fudaaday iyo Cabdi Shire yar jacayl soo fudaado gabadhaas ma dhalin Cabdi Shire gabadh abgaal mursays ka dhalaan waa gabadh daamaan kowda meesha ku bixiya loo baahan yahay aroos qarno qofka dhiga loo baahan gabadha nin soo afka jooga qabo ana siiyay walaashay waaye faantay jireerna ma siin gabadha meel ku maxamed Sheekh Bashiir waxa leeyahay gabadha musna qabo walaalkeeda oo Soomaaliya jireerna kuma xiranto ilaaha ka boqo dawladda Soomaaliya waxa leeyahay naag la qabo naagtan gabadha waa la qaba walaashay waaye nin soo afka jooga qabo oo aniga si gacantay ku siiyay meel lood kuma xiranto ni maqlaysan inta maqlayso farta soo taagto mali maqlaya inta fiirsanaas video asii soo garayso asxaabe mali maqlaya waa ku maqlaynaa dhaha haday maqlaysiin warka meelaha wareegayna nisoo gabagabeeyo u baahanahay okay horta ninka dhinta Allah u naxariisto waa dhintay jannada Ilaahay geeyo waxa leenahay marxuum dhinto waa walaalkeena Soomaaliya waa ka xunaay aan naftiga ku xun oo gabadha la dhashay dhibka dhaca dhacay Allah u naxariisto san waxa la yaal taagan laakiin dhib ka weyn taagan qofka uu dhinto laakiin qofka nool si loo badbaadinayo qof sixir si loo badbaadiya jacayl iyo sixirna meel ma wada galaan kowda hooyadeena way xiran tahay waxaan dhihi lahaa hooyo ha ooyin marka hooyaday dilkan way ka wareysay xabsiga ku jirtay ninkii dhintaa xir hooyaday faanteen sheekada Soomaaliyeed fudaadka iyo dibka wadin hooyaday way ka horeysay markii ninka dhimanayay faanteen hooyaday way ka horeysay markii ninkan dhimanayay hooyaday 6 maalin la xirnaa markii ninkan dhimanayay dadka beenta iyo inhaabka waxa leeyahay dilka hooyaday dilka waa loo dadka leeyahay maamada way dishay hooyaday ma sin dilin dadka dilana waa dad ma kana gabadha ehel u ah xaqna u leeyahay inay dilaan waayo nin jireer gabadha ka wata loo bil sixraday afgooyay sixraday baxarka u geeyay wabiga gilay kulli walaasha ninkii jireer silahay oo si hasixra asaga afaanteen ani walaasha ma siin afaant dawladda Soomaaliya waxa la cadaalad waxay ka yaqaanaa mala cadaalad ma yaqaanaan afaanteen
jarena walaashay siin maayo anaa ku dhahayo walaashay waa la qabaa nisoo afka joogaa qabo meher labaadna kuma xirno waa xaaraan arooska qaranna waxaa leeyahay geeri qarnaa dhici doonta haddii sidaas kusii socdaan been mana sheegaayo fahanteen gabadhan dad ay ka dhalatay marka waxaa leeyahay asxaabay sheer gareeya xanaaq wuxuu igi muuqaa walaashay walaasha ma siin lahayd nin jareere ma kula noolaa lahayd war aniga ma jireen aniga walaashay ay dhasho oo madax tixriya leh wallaahi billahi wataala dhimashaan ka xigaa tirki inaan tago kowdhaha ninka walaashii siin lahaa hasi walaashay aan tvda walaashay aniga la soo kortay anaa gacanteeda kusoo koriyey kowdhaha dhaqankaasna ma laha dhaqan jareer waa dhaqankaas oo sixira gabar iska aamus meel iska taagay weligii maaragteen oo hadliinba oo hooyadeedna xiran tahay waxaas waxa soconaa ma kowdhaha haddii jareer la siinaa walaashi ma lagu bilaabayo kheyr iyo farmaajo ha siiyaan gabdhahoodu 20 mareexaan iyo 20 mursada ha siiyaan gabdhaha ma fahanteen 20 marka la siiya anaga gabdhaha ma dhiibanaa ma fahante marka kheyr ra'yaansa keligiis aan ka hadlaya aniga ma fahante waa dhaleen waana ka dhashay ma fahanteen laakiin kheyr waa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya gabadhiisa ha siiya kheyr si la dhaxdo cadaalad iyo faleen ma fahante cabdi shariic yaar jacayl waxa leeyahay gabadhiisa ha siiyo ninka jareerka wiilka la dhashin ee badii jirata hala siiyo ha bilaawato aroos qar loo dhigayo walaashay kale aroos qar loo dhigayo cadaalad ma ka wada walaashan waa la qabaa ninha qabo meher kale kuma xirtay Sheekh Bashiir meesha ku coobay ma fahanteen culimada Soomaaliyeed ma matali karaba runaantii waxa leeyahay gabadha aabaheed waa aabahay ma dhiibin hooyadeena way xiran tahay ma dhiibin ba gabadha hooyadeeda xiranba meher ma ku dhaco ma fahanteen aabahaas yahay soo dhin aabahay anoo dhalay ma fahanteen aabahay ma dhiibin anaa ku dhahayo ninkii dhahay gabadha aabaheedu siiyey aabihii siiya u baahanayo inuu ii keeno marka waxaan leeyahay aabahay gabadha muusan dhiibin ma fahanteen mana dhiibi doono mana bixi doono ma fahanteen dawladda marka waxaa leeyahay sheekada way sii fogeynaysaa yani ma xalin karto haddaysa xalin karin sheekada in iskaga dhamaato way fiican tahay sheekadan hooyo la soo daayo family way fariistaan kabacdina gabadha maaragtay arooska anoo la sheegay waa in hooyadeeda loo tagaa aabaheed loo tagaa anayna lala soo hadlaa dadka gabadha family leedahay gabadha afgeed ma ka dhalan afgeed gabadha wadada ka qabsadeen sheekadaana way dheer tahay 2 bil soo socotay dagaalkan wuu soo socday ma fahanteen ay soo wicin marka waxaa leeyahay dawladda Soomaaliya waxaa leeyahay marka sheekada way dheer tahay sheeko dheer waaye qisa dheer waaye qisadan dawladda waxaa leeyahay ku fududaatay aad iyo aad u fududaatay wixii hadhow ka dhici doono jareerta ma dhaafay ana hadda runtii sheegay dawladda Soomaaliya jareerta ma dhaafi doono ooyada daartin dila ama si iska dhaafa familka dhan mursada abgal ina soo qabsin dila laakiin sheekada way soconaysaa ma dhamaan doonto hadda runtii sheegay afanteen way soconaysaa sheekadan ina dilna oo maana soo afka ugu maana aniga Soomaaliyeena waa maana been ma sheegay gabadh walaalkeeda ahay aniga hadii hadda maanta hooyada la soo deelay mise la soo deelay way isku oo dhameanay aniga walaashay ma agseexanayso sheerasna waa dilay aniga sundoori aan kitaabka jaamaca jareer ina abtiideen hadda runtii sheegay aan fahanteen jareer qofkii inuu dhiiwaro hadii cidiisa siiyaan anaga ma bixinayno sawir cad maahan mana soo galaa anaga dhintay dhintay ninka diidra mise ninka wala mise ninka xumaalaha إيش الجريء؟ عليش الجريء؟ أنا جريء ما لقيته قال ما خان كودها. ليه أصحابي شكله ودرت أنفانتين كل أنا وأمان دونا جريت الدرس كي جوا واسنا قانا خفك وحي شيء هو صح يوصل شيء هو صح يوصل شيء بليز يعني سويعن بليز يعني سويعن ninki siisala ama ninki iska daala walaashii siisala jareer ninki siisala dhaqankiisa dhaqamo ma ka baxay brad xaqiiqada waa ku dhimanaa aniga ma ka baxay Facebook ranto fi qofkii xumaala ama qofkii xumaala asii wata la faanteen ana walaashay jareer ma siinay mana siin doono mana dhicito farmaajiye qeyro hasiyaan faanteen farmaajiye qeyro gabdhood hasiyaan dalaxa gawdhiis hasiya doro asay jireen ciyaar jacayl gawdhiis hasiya asaga asaa daarood ee faateen kulligood hasiyaan ana mursada yaabgaas ka dhalaa ma siinayno haddii si la siiyo aroos kana u dhacay gubnina si dhacay jirata waa si guweena afaant
jareertu waa u badiseen aniga mana badinayaan madaxda dowladda ha badiyaan ma badan doofaarku dhal dhegeysta ma badinaya kow dhaa qofkii inuu rabo jareer gabadhiisa iyo ha siisto walaashay ma siin marka laakiin ra'aati waxaa leeyahay dabka le usii badinaysa maan wax leela sii hoorna maan wax degaayo oo xaalka degaayo ma jiro aqligiina ha shaqeeyo waxaan leeyahay sheekada awdiin sheeko soconaysa ma ahan dowladda Soomaaliya waxaa leeyahay arooska qanaarigaysiin aas qaran kala dhacay aan fahanteen qaran le ku sii dareysay maana wax hadda kulay ani had nafs aanteeda inaa shaab galay u qasbaysiyo waa la galay aan fahanteen wax leeyahay si burbura maana dhalinta yaa la sii fogeen beelweyn ana anaga fahanteen walaashayna faraha la yaqaan hadii nabad la rabo waa kulay hooyada cadaalad hor joogtaa hooyadeen wax ma dilin dilka way ka horeysay fahanteen marka cadaalad hadii la sheego cadaalad waa kale nahay jareerna maaragtay iyo abgaali mursada dhaqan uu leeyahay muqdisho dhaqan ay leedahay qof dilo boqolaal dilaa boqolaal soo ku dhimatay qof boqolaal maaragtay ala dilay maalinkiisa dhintaan ardayda la dilaa dilka muxuu ka bedel dilkii hore wuxuu ka bedelaa malaha fahanteen marka waxa leeyahay asxaabe sheekada awdiin ku sii socda la soo faatay kulli anaga gabadha waa la qabaa dadka dhiibay xilwaanada dhiibay maysan dhalin ayaga dadka dhiibay xilwaanada mid waa jareer madna waa daarood meesha dhalin labadooda faateen gabadha hooyada xabsi ku jirto aroos qarna u dhigaya ma warta ha dhashay eeyaa ku dhashay marka waxa la yaab mataqaana meesha niga dhalan kowdha anaga na dhalatay gabadha ma dhiibin ma dhiibi doono jareer ma ninka walaashii siin doono jareer hasi waa ka jareer way joogaane waa ka furayna mid kale hasi ayaga fudeedka dowladda nooca waa nolol fudeedkaas waay dowladda ka dhalamada Soomaaliya cadaalad saas u jirto waxa uu sheegay waxa leeyahay shirkada waa ka aamusan tahay inaa ka hesho Allah kugu duwo farmaajo Allah kugu duwo jagada Allah waxa ku weyn doono gudoomiyaha gobolka Banaadir oo loo bilka aamusna gudoomiyaha degmada Yaaqshido cambaareenaya ciidamadiisa hooyada maalin kasta waa loo keenay jiray ninka dhinta Allah naxariistay loo bilaa waardiinay hooyada maalin kasta qoriya lagu hayay maalin kasta waa la xiri jiray dhibkan islaacan ayaa ka dambeeyay dowladda ilaa meesha degana waa degmada Yaaqshido gudoomiyaha leedahay asaa maalin kasta lagu shi jiray hooyada la xiri jiray xabad ku ridi jiray marka waxa u baahanahay cadaalad la sheego inay gudoomiyaha soo qabtaan gudoomiyaha gobolka Banaadir loo bil meesha sheekada ka jirta asaga ka aamusnaa inuu dhaho cadaalada xilwaano siyaasiyiin oo beelaha ka dhashay amaamada soo dimeynay maamada wax dambi ah leedahay malaha hadii cadaalad la fiiriyo hooyaday dilkan way ka horeysay xaqdar u xirneed gudoomiyaha gobolka u xirneed gudoomiyaha degmada u xirneed ayagana ka dambe $700 ku qaateen hooyaday xiristeed ma fahanteen ninkaas aan siiyeen dalxan dhiibo lacagtaas gabadha walaasheeda loo bil Muqdisho ku maqaneed dalxa gurigiisa ku jirtay runta waa doomana laakiin aniga maanta waa soo baxay waxaad ogeen aniga sheegaya ii shargalay gurbiyada ha lagu sheekaray meel walba dalxa insha Allah gacanta cadawga ku dhimanaysa koode gacanteena oo kugu dilay hadaa noola aniga waan imanaya runaantii been ku sheegay adaa dhiibi bilaash awnees markii xal walaashay koor taagneedna maskiin amal waa aamusneed ileen dhiiga ku degay ninka waa soo duugay walaashay aragtay ninka inuu gacan gelisid kullee laga yeeli ma koodha wax kale oo yeelay jareer la siina walaashay waxa arkin digana idinka bilaawa doona ku bilaawa marka muhiimadda waxay tahay dowladda Soomaaliya gabadha meesha dhalan gabadha anaga la dhalatay hooyada dhashay hooyada xiran tahay afaanteen hooyada waxa la hooyaha weyn ninka ku xumaala afkiga qabanayo afkii ma qabsamayo afaanteen kulli baasha meesha yarta ayaga geen ha geeyaan afaant marxuumku inta ma haysta aniga marxuumku wuu dhintay Allah u naxariisto qaraawa joogto tola joogo family joogo waa la gudagalaya afaanteen kulli waxa waaye hooyada meesha dilin bilaash dadkaas u leeyihiin afaanteen wax mar loo baana ma jiro afaanteen xaqiiqada la doonto ma ahan afka waa leeyahay laakiin maanta afka waa furtay waxa ogaataan sheekada inay si qarxayso inay si dhamaaneen gudoomiyaha gobolka Banaadir waxa leeyahay injineeriiso sheekadan gobolka aad degan gabadhan adeerta daawuda ma fahanti aday abgaal ah aday hooyo abu ku leedahay ma fahanti aday gabadh dhiiga ta aan fahmin oo gabadhaada si jareerka
أبانتي جود هذا كبلاو عدالة مرتها جود هذا كبلاو أنا عدالة ما أنا علي توكت محمد لكن جود بيحي هرت أبانتين أنا هو هذا مريح أقول مكره لكن عدالة أوبانا أبانتين جود نك بيحي أوبانا أبي موسى بيحي جود قفك بيحي أوبانا إنه بيحي أوبانا عليه شيء جود الخو ومير كحرن ونلسي ولو بلن قاضي يرانتين أجو سو أفريقيا أصلا شغال هذين أصحابي وحص أنا أمان أخلي قلان ما هن وح مضى صومالي كذا دعوة جور بس حرنته مرة مرتين أفقوا لقي وبيجي لحق لي ولا شيء عشان تسحرك وعاس أي شيء الجلال إجلانا ويسيق أنا فاهمله اسكت أنا ما اسكت دين ما الدين وأنا لقوا لكن كل كمان نك وغاندس ولا شيء سلا جرير وغاندس جرير واسكت ما سينا ولا شيء فانتين على إيش ورجريو ما بحنا ولا شيء حق وحول لا أو هلا حتى ولا شيء ما بحنا نيجي ما نبحث دول نك ولا شيء جرير سيناي أسيء وطالع أبدين وين نديك ويكورسي بلاش اللي دخل ما ويد الشيء ما ويد ما اسمه لها ما لا ونك دلي نك جوجي دفك توفيق ويجي كاموس شيء كذا ودوميها دقمدي أخشدو كاموسي أساه هو إذا ما رأيت قريب كوي أبد أسين وحرنتاي نك اللي تاني حري مالك ونك دي من ويدي محكمة بين صار ما فهمت عدالة ما جري قال شنو ويدي كجبتها مع لوجي سيادي لمرسين محكمة لمرسين ولكن هو إذا حسي كجبتها دول سماه حلا هاي عدالة الناس كشقين أروس قرن لا شيء أصغرنا وبدلها لكن شكلها هدي أسيو الدين ودمان دونتا لكن واحدة ما أنا وماكو نيك ولا شيء جرير سينا أسيو وطلع أنا ما سينا ولا شيء أفانتين مركب أنت السيا دارتين هو يدي الدلة مركب ما أنا دمنا سيا ولا شيء هلا راح يصير لكن الناس يقولون لا ألو بهاي فالكان فلا قدام بيوية وأركتان بلاش وبلا حسلو ولا عدالة وعدالة قبل سنة قبلها جلاد أنا وجرسده ودخل ملين أنا أسكت دخل ملين لكن أسكت ديوان معي سير كي بلايا أنا ونعنا أنا قدام فهمتين مركب على أصحابي إيش الجريء إيش رأي مدحوينها هجرتو برلمان هجرتو وح أنا أدي عدالة لسه ورثها واحد تاي ما نتا أي ما عدالة نكال ضمحوها عبد الشريع يرجعل جود موسى دلي شريك موسى دلي لكن جود أنا يلا لطي قرب كينو قبصنا ولا شيء مسنيك جود اللي والشيء ولا شيء الأمر يكون محرمته قال ما ولا شيء مسلم هل ميرا يكون حرم فهمت ولا شيء 15 years جبتها براد ودليسي أصحابي كودا حور العيون ولا شيء جود سومالي جلي عن نجري لسي أنا كسر جيدا أنا ودمناي لكن تيرتو إن جري جورستو أفاد ويسحرنتها سيد ولا شيء وكذا أفادين وأنا عص أفاد عرفت حوس وجيدة على جوري ما مدها هدلو شريك سو مسلم مهان نفتي تنقيسو خريسو بوقل عيد جري الجورسو عندنا وكل قاد سي جريرتني الجورسو تفهمت دوفاري أنا جوري جري الجورسو حلاي سيلك أشتا لو شو فهمتين وحكوا ترى مال إلى ولا شيء أنا ولا شيء قال الله أنا يا حبر جوجلا فهمتين لكن نصيبي لا أنت قلت شو يعني أباتي نكي رضو جميلة ألا قلدن واسحرم تعمي هذه جرير ما أقوى أو كاشي كيه مركب حقولها ولا بعاري ماشي إسكاك بحكوده خير نيرجينا يا لايفك هجارو هل يشر جريو أباتين ولا شيء ما بحنين أبات ولا شيء نكا كور ريني كوحر نذبه شيء كان هالكاسك وقتها أبين مو سبحين هذا يلا شيئان حد الله اللي ما سبحين محكمة إيمان دونا وين عدين دونا نكي بحيه وحال عبد الشريع يرجع وأوبهنا ماشي كبحيه ما فهمتني وهذه نفتي إذا صبح حساب حاسي موسى وقال إنك كان كور حاسي كجبت لك وهذه حاسي محوق الشيء جود إذا يرجع شاي بس أنا إجرار سيسو خلاص حبسي وحى أودني حبسي قشوا أنا حبسي وهو يتي إذا ما تحت أودا جود أنتوا شرير هرت وقول سماه يعملك شرير يدل تما شرير كترحي عليه ما فهمتني مركو حلاي waxaan leeyahay asxaawe ninkii goor jiray walaashii inuu si hasiyo bilaash oo qosleysa bilaash marka la waa qaldan tahay walaasha jareerka si aad qaldanay ee habartaha ka yeesho dheer cadaa ku dhashay gowde marka waxaan leeyahay asxaawe waxa suucay ma aha wax ana ayeli kara qalbigay gali kara ma aha qof kasta oo maanta wiil kasta oo Soomaaliya fahanti laakiin idinka hal xabaan gurigooda iyo gurigeena hal xabaa u dhaxeeyo 45 sano dirisnaa wixii gudaan wixii siiina ognaay fahanti لكن مرحوم هناك شيء مرة ولكن الله ونحن الجمال الله يجيو أباتين ضد بدنا وشجعنا قدام بيه
lacag ku qaadanayo waxaa leeyahay magac nina qameeso caadi nina qameeso caada soo jirta alla afaanteen maamaada waxay ahayd caada Soomaali mugooda meed sheekada ninkii xalay ka hadlay jareerkaas guursto dhaa afaanteen oo hooyada xabsi ugu jirtaa afaant waa runtiis waxa jiro ogiyaa afaant laakiin gabadh walaashay aniga aqaano niyo nooc ma hasho walaashay gacanteeda ku soo koriyay afaanteen marka asxaabay dhalinta xaafad Tawfiiq waxa leeyahay dhalinta aniga dhalataba oo abgaalka iyo marsaxa leeyahay xeerka la jibin afaanteen xeerka ma ahan jireen isma guursan ma isgalno rumaartiin laakiin umada kalba kan usushubka oo hooyada mise abo usushubkiya ay haasistaan afaanteen laakiin birti markii adag soo gaarto dhaawac ku soo gaaro hooyada oo xiran iyo walaasha oo ninka watay laba bilaan arkin walaashay hal TV ka arkay afaanteen waa murugo walaashay anigu arkin marka arkay waa leeyahay si u fadhiso خلاص خوف ما يصير تاجرت ولا شيء فهمت انا والله صدق ابا معه كجعله قال كنت اسكو عند هذا ويبي حسين مره يجي صار انا شديق فهمت خلاص بالادم سوي ساكت ولا شيء نوع اسمه هذا كرتون فهمت قبل هو يحرمه ودي كرتو dadka askar afaan saan waay waalidka madax adeegiin waxa la yocsi waxa la maxaa dhigi kartaa dadka maxaa ka codsanay ninka familkiis iska daay waxay taagantay waxba qof sixir waa aragtay خلاص waan fahmino mar gabadh way sixiranta waa gabadh yar maskiina abant وسحر العبسي ولي سحر كانوا سكري ما فهمناه هيرو هلا تفسير المخرج نفات لكن هو العبسي فهمتين marka meesha ku dhaqan bilaayaan loo baahayaa marka shaqada dhaqan ma laha waxa leeyahay xilwaanadii waxaan sameeyay xalay ayuu raali hadana soo celiyaan oo kullee walaasha lama qabo laba meel kuma xiranto haraali geliya hadaan sixirkana ha ka furaan sheekh xalaf di meesha murugoonaay waa sheekh Bashir ilaa saas u fiirinay faham sheekh ma sheedaan waaye suwan maalacada ku dhacay kowdhaha afaanteen marka dadka qaar way arkaan laakiin waxa urtay marxuumka Allah u naxariiso faan laakiin gabadha la dhahay waa waxa leeyahay aroos qarna loo sameeynaya qarna oo dhacay doona filaya afaanteen laakiin ilma ka dhaday waxa leeyahay siyaalena ma waxa laga hagaajinaya mala afaanteen laakiin waxa leeyahay walaasha oo ku lalato hooyada dhashay waxa arti ahaa ku dhig jileec ahaa afaanteen jileec waa taa walaasha nin jireer aad qaanin dad qodaha si walaasha gudka qodaha xaafadda iyo qodaha kama soo shaqoodo walaasha daasiris aday ku taala afaanteen laakiin cida waasna qaadana siinaayo qof aqaano walaashay ma siin karo mana siin doono afaanteen naga caayta maayo laangaawo waan fahanteen marka sirkooda jireed ha garaaco kulli walaashay kulli waxa waaye marka sabray ruux nool waan fahanteen oo la sixray laakiin wali mustaqbal way leedahay fahanteen waa soo ceshanaya sixirka ka furanaya guriga gashanaya fahanteen ayadoo dheeman quruxdaas ay leedahay brother afaamino ماذا الله شان سينا فهمت المعيرنا او جعل يجو فهمنو هاو ما انت انا قريس لكن جريرك ولا يفرايا ما ku xiranto ويها نجاس waa nijaas toban mar iska dhaqaya walaashay horta loo bila loo qabeynaya kowda markii loo qabeeyo ka bacdi caaqila loo qabeynaya fahanteen sixirka la dhaqaya fahmino badda la geliyo wabigay geeyeen fahmino dawladda markii waxa leeyahay xilwaanada Soomaaliya leeyahay dadka siiyay gabadhaas isma leeyihiin gabadhaas iyo qaraabo xataa ma tihiin fahant waxa leeyahay sheekada waa sheeko dheeraatay gabadhan laba nin kuma xiranto waa la qaba aabaheed waa aabay hadda la hadlay afaateen laafna caawa niisoo gelina aabay waxaan leeyahay ma bixin gabadha adeerki bixiya noo keenan alleena afaat oo meelaha luqada ku soo mareen ana jooga aabba jooga hooya joogto xiran ma xiranto waxa jinsa ma taa ma dhigays gabar hooyada xiran aabay diiday laba bil ma qantahay sixirku ma qantahay hooyadina qor lagu hayay dirka hooyaday ka hor way xirneed hooyaday jareerta waxa la baanteen gudoomiyaha degmada yaqshida xiray baan 7500 alisi hooyada xiristeeda biskiliye waa laan dheer hooyada faanteen gabadheeda halaas u dagaalamaysa gabar kasta hooyo dhashan waxa leeyahay haw ogolaan jareer gabadhaada maalmaha la buubuunaya aroos qaran dhigay ka bacdi maxaa dambeeya ma fikirtay horta maxaa ka dambeeya fikirteen gabadha la siiyay maxaa ka dambeeya xagee la geena guri jareerta la geena abaad soori cunaysa kitaabka jaamaca abaad ana ka dambeeya laakiin soo cunay baahan abaad wax qaleela marka ayaan hal iska wado sheekadaas socota laakiin ana ka dambeeyo runaanti dad waa ka dambeeyaan aftiyaasha shala dilan way ka dambeeyaan way joogaa wali meesha dhiman way nool yihiin faanteen dad wali awa hadda waa wali gun faant dhiigooda la qasho baamino qalasa ku dheerana anaga faant maqaarkooda ma gadeena adduunyada gadeena faanteen
هذا منه شكلها والله شيء إيراني يفهم هذا دقن هاي أم حولها أنا أنفع براد ولا شيء جرى ولا أنا كهل ولا شيء قفنا أنا سنة هو أقولان من نفتي ما أقولان ولا شيء هو أقولي يا ولا شيء هو أقولان بلاها قار ما فهمت دبك على قد أيو ولا سبرنا لكن التوفيق وسبرنا كو عنو ما كانوا دور إلفكا وبودي كاركا والتوفيق دوسع ولا شيء مودينا حلقة فاضحة حد كلية لكن بغلالة وبحر ولا شيء سياشي سيالقة فايارت انت أنا ولا دلي يعني العقل ويستوانك بحنا يا على قفك حاجة ملاها أبانت حقي عدالة دقيقة هاي فاهم أبانت مركوا علي أصحابي أبان منه إلا دلنا قفكاس تو وأول ندري عداس العقل أنا يسوي دياني $15,000 سنة شيء توقعنا $1 حلقة في عداس حكي سود لادنا أبانتين هذا أساس ولا شيء عليه السعودية بدي حال الرواية حال مصيرة وكجرو حالها أنا حتى هدارتي حتى حال مصير الرواية ولا شيء عليه السعودية هذا حبسة أنا وسود دايو حال حالته ما أقول لك ولا شيء عليه السعودية ولا شيء ما أقول إنه هبي حتى الله سحب وين عاد ولا سحب كودا لكن شنو كلا سحب هدي عدالة جرتوا أليد النكاس أبانتين وايو نكاس ما هو رسول قصي عروض ولا شيء موسى قرسن دي تحرقت أنا تعسيريه بقول ولا قرفت لكن نكاس ولا شيء حرام وكقوا لا وريكم ميرسنت شيقيدا يا حلوان غرفة ديين waxaa u baahnaa walaasha ninkina meelkii joogo isoo shay cidaas lacag ana tina faanteen $15,000 sina ninka meesha joogo isoo shay gabarna isoo qabto waa isku dhamaatay laakiin ana xamar usoo soo amaanaya hada mino waxa uu maxay tahay hadii sixirka uu qol lahayn waa la dhaqmi lahayn sixirka bisay qalaas aku aan jirta wallahi billah walaashi waa si Allah waa Soomaali walaalka islaam laakiin sixirkaas aku nahay وسحرك واحد كليا أكون عجرت سحرك ما قلت إنه نوعك لقاعد هو هذا أباد وكون ولا كذا وكون هو هذا هو سياب العروس كل سوى دي هذا جرمين دولة محلها حكي في رسالة دولة عروس كجرته ما رحت لسكو شيء إلا لا يعرف الصومالي كودا ما فهمت فالحمد هو نفس كودا جوز قرب لا تلاقي دي دعان كيا هذا ما كده نخرج له ما تقل ما أنت نخرج له ما تقل نكرج وحاله تقل إنه ميلها خار خن عيفانت كروح ولا شيء أنا قلبي ملي ولا شيء جرير موجلي هاي قصبا مصينا ولا شيء جرير سحروه دلاك هي كودا خير ما نيجينا يا ما دي ويدوها السلام عليكم أصحاب تواني سلام دمتين وردك دقة أصحابته شيكان يا وردك دقة هل شرقري عليه شرقري صويا عورت أصحابته دمان واني برشوان مقعي أحمد يدو محمد الله ولي قول الله شاهي عليسو يا dadkii sawacay koolka iga daayaan dadkii sawacay koolka iga daaya live ku jira waartiin koolka iga daaya please and please sheekada waxa qadaro ee dawladda Soomaaliya wado ninkii gabadha la shaahay walaashay ma bixinin walaashay ma dhiibin dadkii dhiiba u baahana walaashay naag la qabo waaye meesha joogan isha warsada afka jooga asxaabe magaciisa saddexna waan sheegay dadkii yaqaan inta aqoon Axmed Yido Maxamed Ali dhaha gabadha walaasheeda ay walaashay jireer ma siin mana siin doon ninkii walaashay jireer siin aasiyo asaga wataala ala soo yaa horta video ay share garay marka sheeko kale cusub waan ayaa faantay dawladda Soomaaliya waxa leeyahay fudeedki iyo akhlaaq xumada iyo madaxdeen waxa leeyahay sidii u fudaadeen balaxo kale soo fudaado iyo cabdi shire ciyaar jacayl soo fudaado gabadhaas ma dhalin cabdi shire
gabar abgaal mursays ka dhalaan waay gabar daamaan kowda meesha ku bixiya loo baahan yahay aroos qaran qof kaliya loo baahan yahay gabadha nin soo afka jooga qabo ana siiyay walaashay waaye afaatay jireerna ma siin gabarna meel kuma xaqo sheekh bashiir waxa leeyahay gabarna musna qabo walaalkeeda oo Soomaaliya jireerna kuma xiranto ilaaha ka boqo dawlad Soomaaliya waxa leeyahay naag la qabo naagtan gabadha waa la qaba walaashay waaye nin soo afka jooga qabo oo aniga sii gacantay ku siiyay meel loo kuma xiranto ni maqlaysan inta maqlayso farta soo taagto mali maqlaya inta fiirsanaas video soo garayso asxaabay mali maqlaya waa ku maqlaynaa dhaha day maqlaysiin warka meelaha wareegayna niso gabagabay u baahanay okay horto ninka dhinta Allah u naxariisto waa dhintay jannada Ilaahay geeyo waxa leenahay marxuum dhinto waa walaalkeena Soomaaliya waa ka xunaay aan naftiga ku xun oo gabadha la dhashay dhibka dhaca uu dhacay Allah u naxariisto sala waxa la yaal taagan laakiin dhib ka weyn taagan qofka uu dhintay laakiin qofka nool si loo badbaadinayo qof sixir si loo badbaadiyaa jacayl iyo sixirna meel ma wada galaan kowda hooyadeena way xiran tahay waxaan dhihi lahaa hooyo ha ooyin marka hooyaday dilkan way ka horeysay xabsiga ku jirtay ninka dhintaa xiray hooyaday faanteen sheekada Soomaaliyeed fudaadka ee dibka awadin hooyaday way ka horeysay markii ninka dhimanayay faanteen hooyaday way ka horeysay markii ninkan dhimanayay hooyaday 6 maalin la xirnaa markii ninkan dhimanayay dadka beenta iyo inhaabka waxa leeyahay dilka hooyaday dilka waa loo dadka leeyahay maamada way dishay hooyaday meeshan dilin dadka dilana waa dad ma kana gabadha ehel u ah xaqna uu leeyahay inay dilaan waayo nin jireer gabar ka wata loo bil sixraday afgooyay sixraday baxarka u geeyay wabiga giliyay kulli walaasha ninkii jireer si lahaay wasi ha sixra asaga afaanteen ani walaasha ma siin afaant dawladda Soomaaliya waxa la yahay cadaalad waxay ka yaqaanaan mala cadaaladna ma yaqaanaan afaanteen jireerna walaasha si maay ana ku dhahay walaasha waa la qabaa nin soo afka jooga qabo meher labaadna ku mehermo waa xaraan arooska qaran waxa leeyahay geeri qarna dhici doonto hadii saas ku sii socdaan been ma sheegay faanteen gabadhan dad ay ka dhalatay marka waxa leeyahay asxaabay shir gareeya xanaaq wuxuu igu muuqdaa walaasha ma sii leeyahay jireer ma kulno la leeyahay walaana ma jireer aniga walaasha dhasho oo madaxta xiriya leh wallahi billahi tala dhimashan ka xiga tirkeena tago kowdaha ninka walaasha siin lahaa hasi walaasha anti fiida walaasha aniga la soo kortay ana gacantayda ku soo koriyay kowdaha dhaqankaas ma laha dhaqan jireer waa dhaqankaas oo sixira gabar iska aamus meel iska taagay weligii ma aragteen oo hadliinba oo hooyada xiran tahay waxa socona ma kowda hadii gabadhan hadii jireer la siinaa walaasha ma lagu bilaaway qeyr iyo farmaajo ha siiyaan gabdhooda 20 marixaan iyo 20 mursada ha siiyaan gabdhaha ma faanteen 30 marka la siiyay aniga gabadhan la diiweena ma faanteen marka qeyr ra'aanta kaligiis aan ka hadlay aniga ma faanteen waa dhaleen وانا كده شايفانتين لكن خير ورئيس وزراء الصومالي جودي ساسي خير سلا بحدو عدالة يا فلان افهمت عبد الشريع يرجع له حاليا جودي ساسيو نيك جريرك ويلك لشن بدي جريته حلسيو هبلا وترس خر لو دغاي ولا شي كلا رس خر لو دغاي عدالة ما كودا ولا شي ولا قوا نينا قبو ميرك لو كما شيخ بشير ماشو ku coobay افهمتين علماء الصومالي ما مثلك ربا وانا انت waxaa leeyahay gabadha aabaheed waa aabahay ma dhiibin hooyada way xiran tahay ma dhiibin ba gabar hooyada xiran ba meher ma ku dhaco afaanteen aabaha siyaay soo dhin aabahay anoo dhalay afaanteen aabahay ma dhiibin anaa ku dhahayo ninkii dhahay gabadha aabaheedu siiyay aabihi siyaa u baahana inuu ay keeno marka waxaan leeyahay aabahay gabadha muusan dhiibin afaanteen mana dhiibi doono mana bixi doono afaanteen dawladda marka waxa leeyahay sheekada way si fogeynaysaa in ma xalin karto adees xalin karin sheekada in iska dhamaato way fiican tahay sheekadan hooyo la soo daayo family way fariistaan ka bacdi gabadha ma aragtay
arooska anoo la sheegay waa in hooyada loo tagaa aabaheed loo tagaa anayna lala soo hadlaa dadka gabadha family leedahay gabadha afgooy ma ka dhalan afgooy gabadha wadada ka qabsadeen sheekadaana way dheer tahay 2 bil soo socotay dagaalkan wuu soo socday ma fahanteen hay soo wicin marka waxaa leeyahay dawladda Soomaaliya waxaa leeyahay marka sheekada way dheer tahay sheeko dheer waaye qisa dheer waaye qisadan dawladda waxaa leeyahay ku fududaatay aad iyo aad u fududaatay wixii hadhow ka dhici doono jareerta ma dhaafay ana hadda runtii sheegay dawladda Soomaaliya jareerta ma dhaafi doono ooyada daartin dila ama iska dhaafa familka dhan mursida abgal ina soo qabsin dila laakiin sheekada way soconaysaa ma dhamaan doonto hadda runtii sheegay afanteen way soconaysaa sheekadan ina dilna oo maana soo afka ugu maana aniga Soomaaliyeena waa maana been mani sheegay gabadh walaalkeeda ahay aniga hadii hadda maanta hooyada la soo deeyay ama la soo deeyay way isku oo dhameeyay aniga walaashay ma xanayso sheerashan waa dilay aniga sundooli aan kitaabka jaamaca jareer ina abtiiliin hadda runtii sheegay afanteen jareer qofkii inuu dhiiwaro hadii ciidiisa siiyaan anaga ma bixinayno sawir cad maahan mana soo galaa anaga dhintay dhintay ninka diidra mis ninka wala mis ninka xumaalaha ishar gareeya aleeshar gareeya ani jareer meel laga soo galaa ma aqaan koodaha leeyahay asxaabay shakada waa dheerta aan faanteen kulli aniga waa amaan doona jareertan diriskeyga waas naqaana qofku waxa ii sheegay hoos waxa igu soo sheegay please ali soo wicin please ali soo wicin ninki siisala misliik iska daala walaashiisa taala jareer ninki siisala dhaqankiisa dhaqmo ma ka baxay brad xaqiiqada waa ku dhimanaa aniga ma ka baxay Facebook ranto fi qofkii xumaala amsi qofkii xumaala asay wata la faanteen ana walaashay jareer ma siinaay mana siin doono mana dhicito farmaajiye qeyro hasiyaan faanteen farmaajiye qeyro gabdhood hasiyaan dalaxa gawdhiisa hasiya doro asay jireen isliin ciyaar jacayl gawdhiisa hasiya asaga daarood ee faateen kulligood hasiyaan ana mursida yabgaas ka dhalaa ma siinayno hadii si la siiyo aroos kana u dhacay gubnina si dhacay jirta waa si guweena afaan jirta waa u badaysan ana mana badinayaan madaxda dawladda ha badiyaan ma badan doofaarka dhal dhageysta ma badinayo kowdha qofkii inuu rabo jareer gawdhiisa hasiisto walaashay ma siin marka laakiin raati waxa leeyahay dabka la usii badinaysi maan waxa leeyahay si hoona maan wax dagay oo xaalka dagay ma jiro aqligiina ha shaqeeyo waxaan leeyahay sheekada awdiin sheeko soconaysa ma ahan dawladda Soomaaliya waxa leeyahay arooska qanaariyaysiin aas qaran kala dhacay faanteen qaran leeyahay ku sii dareysay maan wax hadda kulay ani had nafsi aanteeda ina shaab galay u qasbaysi waa galay faanteen wax la si burbura maahane dhalantii la si fogeen beelweena anaga faanteen walaashayna faraha la yaqaan hadii lamad la rabo waa kulli wada cadaalad hor joogtaa wada wax ma dilin dilka way ka horeysay faanteen marka cadaalad hadii la sheego cadaalad waa kale nahay jareerna maaragtay iyo abgaal mursada dhaqan oo leeyahay muqdisho dhaqan oo leeyahay qof dilo boqolaala soo ku dhimatay qof boqolaala maaragtay ala dilay maalinkiisa dhintaan ardayda la dilaa dilkan muxuu ka bedel dilkii hore wuxuu ka bedelaa malaha faanteen marka waxa leeyahay asxaabay sheekada awdiin ku sii socda hala sii faatay kulli anaga gabadha waa la qabaa dadka dhiibay xilwaanada dhiibay ma aysan dhalin ayaga dadka dhiibay xilwaanada mid waa jareer midna waa daarood meesha dhalin labadooda faateen gabadha way xabsi ku jirto aroos qarna u dhigaya ma warta ha dhashay eeyaa ku dhashay marka waxa leeyahay mataqaana meesha niga dhalan kowdha anaga dhalatay gabadha ma dhiibin ma dhiibi doono jareer ma ninka walaashii siin doono jareer hasi waa ka jareer way joogaane waa ka furayna mid kala hasi ayaga fudeedka dawladda nooca waa nolol fudeedkaas waay dawladda ka dhalameeda Soomaaliya cadaalad asaas u jirto waxa uu sheegay waxa leeyahay shakada waa ka aamusan tahay ina ka insha Allah kugu duwo farmaajo Allah kugu duwo jagada Allah waxa ku weyn doono gudoomiyaha gobolka Banaadir oo loo bilka aamusna gudoomiyaha degmada Yakshiid oo cambaareenaya ciidamadiisa weeyada maalin kasta waa loo keenay jiray ninka dhinta Allah naxariistay loo bilaa waardiinay weeyada maalin kasta qoriya lagu hayay maalin kasta waa la xiri jiray
dhibkan islaacan ayaa ka dambeeyay dawladda ilaa meesha degana waa deegaan waa degmada yaaqshid gudoomiye leedahay asaa maalinta la luushi jiray wada la xiri jiray xabad koridi jiray marka waxa u baahanahay cadaalad la sheego inay gudoomiyaha soo qabtaan gudoomiyaha gobolka banaadir laba bil meesha shakada ka jirta asaga ka aamusnaa inuu dhaho cadaaladda xilwaano siyaasiyiin oo beelaha ka dhashay ama ma soo dimeynay maamada wax dambi ah leedahay malaha hadii cadaalad la fiiriyo hooyaday dilkan way ka horeysay xaqdare u xirneed gudoomiyaha gobolka u xirneed gudoomiyaha degmada u xirneed ayagana ka dambeeyay $700 ay ku qaateen hooyaday xiristeed ma fahanteen ninkaas aan siiyeen dalaxan dhiibo lacagtaas gabadha walaasheena laba bil muqdisho ku maqaneed dalaxa gurigiisa ku jirtay runtu waa doomana laakiin aniga maanta waa soo baxay ma fahanteen waxa ogeyn aniga sheegaya ii shar gareey gurbiyada ha lagu sheer kareey meel walbo dalaxa insha Allah gacanta cadawga ku dhimanaysa koode gacanteena ku gudilay hadaa noola aniga waan imanaya runaantii been ku sheegay adaa dhiibi bilaash awneys markii xal walaashay ku hortaagneedna maskiin camal waa aamusneed ilaan dhiiga ku degay ninka waa soo duugay walaashay aragtay ninka inuu gacan gelisid kullee laga yeeli ma ku dhaha wax kale oo yeelay jareer la siimay walaashay waxa arkin digana idinka bilaawa doona ku bilaawa marka muhiimadda waxay tahay dawladda Soomaaliya gabadha meesha dhalan gabadha anaga dhalatay hooyadeeda dhashay hooyadeena xiran tahay afaanteen hooyadeeda waxa leeyahay hooyo haween ninka ku xumaala afkiga qabanayo afkii ma qabsamayo afaanteen kulli baasha meesha yarta ayaga geeyeen hageeyaan afaanteen marxuumku inta ma haysta aniga marxuumku wuu dhintay Allah u naxariisto qaraawa joogto tolaa joogo family joogo waa la guda galaya aan faanteen kulli waxa waaye hooyada meesha dilin bilaash dadkaas u leeyihiin faanteen waxa mar loo baana ma jiro faanteen xaqiiqada laga doonto ma ahan afka waa leeyahay laakiin maanta afku waa furtay waxa ogaataan sheekada inay si qarxayso inay si dhamaaneen gudoomiyaha gobolka Banaadir waxa leeyahay injineer Riso sheekadan gobolka aad degan gabadhan adeerta adeerta Daawuda ma fahanti adeer abgaal ah adeer hooyo abu ku leedahay ma fahanti adeer gabadh dhiigaata aan fahmino gabadhaada si dareerka ma fahanti gabadhaada ka bilaaw cadaalad marata gabadhaada ka bilaaw ana cadaalad ma ana ali toogto maxamed laakiin gabadha bixi horta ma fahanteen ana hooyada magaceeda oo dhima kara laakiin cadaalada u baana faatin gabadh ninka bixiya u baana aabbe muuse bixin gabadh qofka bixiyay u baana inuu bixiya u baana halay sheego gabadh la qabo oo meher ku xiran oo nin siiyay oo loo balan qaaday yaraanteeda ajoog South Africa asal shaqeena hadeen asxaabi waxaas soconaa maan aqli galaan maahan wax oo umada Soomaaliya ka dhacdo gabadh way sixrantahay marna artiin afgoya la geeyay wabiga la xagiliyay walaashay way cabsantaa sixirka waxaas ay sheegeen jiran ijlaan way siqaan faamilo isku dhaqana ma isku diin ma diintu wana qaban laakiin ku dhaqmaan ninka Ugandais walaashii siila jireer Ugandais jireer isku mid ma siina walaashii infaanteen halay shar gareeyo ma bixina walaashii xaq waxa uu leeyahay oo hadla xitaa walaashii ma bixin aniga mana bixi doono ninka walaashii jireer siinay asee u taala abaadeen oo dilka way ka horeysay bilaash leeyahay duqad maamad way dishay maamad ma laha maada og ninka dilay ninka joogay dadkii tawfiiq way ka aamusay sheekadan gudoomiyaha degmada Yaaqshid uu ka aamusay asaa hooyada maalinta qoray ku hay abaan aseen u xiran tahay ninka dhintaana xiray maalinka ninka dhimanayo hooyaday maxkamadda beenaysa ma fahanti cadaalad ma geer gaal hooyaday ku jirtaa maxaa lagu geey si adii la marsin maxkamadda la marsin laakiin hooyaday xabsiga ku jirtaa dawladda Soomaaliya waxa leeyahay cadaalad meesha ka shaqeyn arooska qaran la sheegay aas qaran ugu bedelayo laakiin sheekada hadii asii wadin way dhamaan doontaa laakiin wax dhamaana uma eko ninka walaashii jireer siina asii u taala ana ma siina walaashii afaanteen marka dhinta siya daartiin hooyadina dila markay dhimato ay dhimana siya walaasheen hala raaxaysto laakiin meesha ku noolaa loo baahan yahay falkan fal laga dambeeyo uu yahay aragtaan bilaash oo dalax isla walaayay cadaalad ku balaysan gabdhaha jilaada anagu guursado wax dhaqan malin anaga isku dhaqan malin laakiin isku diiwaan nahay sixirkii balaayada anagu nacno anaga dhan afaanteen marka waxa leeyahay asxaabay ii sheer gareeya wasaaraha madaxweynaha ha gaarto
baarlamaanka ha gaarto waxa aniga aad iyo aad cadaalad la soo hor istaaga waxay tahay maalinta ay amaada cadaalada ninka la dhaho muxuu ahaa cabdi sharic yaar jecel gabadha Muuse dhalay shariirka Muuse dhalay laakiin gabadha aniga la dhalatay garabkiina oo qabsada ma walaashay misninka gabadha leeyahay waa la siiyay walaashay loo meel kuma xiranto gaalama walaashay waa muslim hal meera ku xiran faanta walaashay 15 years jirta brother waa dheelisiida asxaabay ku dhaa xur lacaan waa walaashay gabar Soomaaliyeed jilcaan in jireen la siiyay ana ka soo horjeedo ana u dhimanaay laakiin tiirto in jireen guursato abaad way sixrantahay sida walaashay oo kale faanteen waa nacas abaad ceebta waxa u soo jiidaysaa leedahay gabaray maamada ha dilo jareerka soo muslim ahaan naftii tan dheeso qoreyso boogala ay jireen guursado عندنا وكل قاد في جريرة إنه يجورسوا تفهمت توفاري أنا جود جريرة جوستو حاليا هاي سلك أشتغل أوش وفهمتين وحكوا ترى سمر إلى ولا شيء واي أنا ولا شيء وقال الله وأنا يا حبر جوجل هاي فهمتين لكن نصيب لا أنت قلت شو يعني فهمتين نكي رضو جميلة أنا قدام واسحرم تعمل هذا يعني جريرة ما أقوى أو كاش كيه مركب حقولها ولا لا بعاري ماشي إسكاك بحكوا ده خير نيرجينا يا لايفك ha gaaro hal yeeshar gareeyo afaanteen walaashay ma bixinin afaanta walaashayna ninka ka hor inay ku xirneedba sheekada halkaas ku wagtaay aabeen Muuse bixin adeerada la sheegaan hadda la hadlay ma sabixin maxkamadda imaan doona wadaan cadeen doonaan ninki bixiyay waxa la cabdi sharic yaar jecel waa u baahanaa meesha ku bixiyay afaanteen hooyadii naftigeeda soo bixaysa xasi Muuse oo gal ninka ka hor xasi ku jirta laakiin hooyadii xasi maxay u gashay gabadheeda jeceshahay بس أنا جرير سيسو خلاص حبسي وحي أود إني حبسي قشوا أنا حبسي وهو يتي إلا ما تحت أود جوري أنتوا جرير هرت أقول سمعها يقولك جرير يدل تما جرير كا ترحق عليه أبانتين مركو حلاي وحني لا يا سعوي نيكي جوري جرير ولا شيء نصي حسي بلاش أقص ليس بلاش ما كان لا قلدتها ولا شيء جرير كشيء ده قلدنا يا هبرتها كايش دير على كل شيء كوده مركا يعني لا يا أصحابي وحاس سعاية معها أنا أيلي كذا قلبي يقلي كذا معها قف كستو ما أنت ويل كستو سوماليا فهمتي لكن إنك حل حبة يقولي حل حبة ودحي أفرت إيش أصلا أدرس معي وحي جدان وحي سيين أقولنا فهمتي لكن مرحوم هناك الشيء مرة ولكن الله ونحل الجنود الله يجيو فهمتين ضد بدنا وشجعنا قدام بيه لحقوا قالنا أيو وحلايا ما يعني هنا خميسو عاد هنا خميسو عاد سوجت الله فهمتين ما واحد عايز ما لما قال ميد شكل نك شل حلقة هلا جرير كاس يقولستو ده فهمت وهي الحبس يقول شفتها فهمت وارنتيس واحد شنو أوجي فهمت لكن قولي ولا شيء أنا أقانو أنا نيو نوع ما حشو ولا شيء أنا قعدت أقول سو كريه فهمتين مركا أصحابي لما أنت حافظ توفيق وحلاي هاي لما أنت أنا لا توا وأبقالك مرصاح عليها حيرك يا الجبين فهمتين حيرك ما أهل جيران اسمه جورسن ما يسقلنا رمارتين لكن أمضى كلمة كانوا سوسبك وهو مثل أبو سوسبك أي هالسيستان فهمت لكن بريت ما كأدوك سوقاته أدعك سوقا وهو هذا وحرنيه ولا شيء ونك وتلا وبلا نعركم ولا شيء حالتي في كارك فهمتين ومرو ولا شيء أنا ما أركب ما كأركب عليها وفرسه خلاص خوف ما يصير تأجرت ولا شيء فهمت أنا والله شداد أبا معه كجعله كان كنت أسكت عداد ويجي حسين مرة يجي سهرنس أنا شديد معه فهمت خلاص بالأدم سوي سكت ولا شيء نوع اسمه هذا كرتون فهمت قبل هو يحرم ودي كرتون ذكى أسكتها فهم سوا وقالت جماعة حذيقين وحلا يعصي وحلا ما حد يكرتها ذكى معك عود سنة نكاف ملك كده حيت أنت وحوا بقف سحر وارث خلاص وأنفهم منه من الجوار بسحر أنت والجوار ومسكينة فهمت وسحر العبسي يولي سحرك وأنا أشتري ذا أنفهم منه هذا التفسير المغلق جنبات لكن هو العبسي فهمتين marka meesha ku dhaqan bilaayaan loo baahay marka shaqada dhaqan ma laha waxa leeyahay xilwaanadii waxaan sameeyay xalay ayagoo raali hadana soo celiyaan kullee walaasha lama qabo laba meel kuma xiranto haraali geliya hadaan sixirkan ha ka furaan sheekh xalaf di meesha murugoonay waa sheekh bashir ilaa saas u fiirinay faham sheekh ma shaydaan waaye suwan maalacada ku dhacay kowdhaha afaanteen marka dadka qaar way arkaan laakiin waxa hortay marxuumka Allah u naxariiso faham لكن جودة الله وحلي أرس خرنا لوس منايا أسخرنا وده دونا في لا فهمت لكن المكان ده وحلي لسه علينا ما وحلا جاينا ما لا فهمتين لكن وحلي هاي
walaasha oo ku lalato hooyada dhashay ya waxa arti ahaw ku dhe jileec ahaw fahant jileec waa taa walaasha nin jireer aad qaan god qodaasi walaasha godka qoday xaafada iyo qoday kama soo shaqoodo walaasha da serious aday ku taala fahant laakiin cida waasna qaan siinaayo qofa aqaano walaasha ma siin karo mana siin doono fahant naga caayta maayo laangaaw waan fahanteen marka sirkooda jireed ha garaaco kulli walaasha kulli waxa waaye marka sabra ruux nool aan fahanteen oo la sixray laakiin wali mustaqbal way leedahay fahanteen ya waa soo ceshanaya sixirka ka furanaya guriga gashanaya fahanteen ayadoo dheeman quruxdaas ay leedahay brother mafaamino mid alla shansinaya aan fahanteen oo ma yaranayo oo jacayl ii joogo mafaamino hawo maanta la ana qaleys laakiin jireedka waa laga furaya ma ku xiranto nijaas waa nijaas toban mar la iska dhaqaya walaasha horta loo bila loo qabeynaya kowda ya markii loo qabeeyo ka bacdi caaqila loo qabeynaya afaanteen ya sixirka la dhaqaya afaamino badda la geliyo wabigay geeyeen afaamino dawladda markii waxaa leeyahay xildhibaanada Soomaaliya waxaa leeyahay dadka siiyey gabadhaas isma leeyihiin gabadhaas iyo qaraabo xataa ma tihiin fahamta waxaa leeyahay sheekada waa sheeko dheeraatay gabadhan laba nin kuma xiranto waa la qaba aabaheed waa aabay hadda la hadlay afaateen laafna caada ni soo gelina aabay waxaan leeyahay ma bixin gabadha adeerka bixiyaha noo keenan alleena afaat oo meelaha luqeeda ku soo mareen ana joogo aabba joogo hooya joogto xiran ma xiranto waxa jinsa mataa ma dhigays gabar hooyada xiran aabay diiday laba bil ma qantahay sixirku ma qantahay hooyada qor lagu hayay dirka hooyada ka hor way xirneed hooyada jareerta waxa la baanteen gudoomiyaha degmada yaaqshida xiray baan 2500 alisi hooyada xiristeeda bas kaliya waa laan dheer hooyada faanteen gabadheeda halaas u dagaalamaysa gabar kasta hooyo dhashan waxa leeyahay haw ogolaan jiray gabadhaada maalmaha la buubuunaya aroos qaran dhigay ka bacdi maxaa dambeeya ma fikirtay horta maxaa ka dambeeya fikirteen gabadha la siiyay maxaa ka dambeeya xagee la geenay guri jireerta la geenay afaan soo riixonaysa kitaabka jaamaca afaan ana ka dambeeya laakiin ina soo cunay baahan afaan wax qaleela marka ayaan hal iska wado sheekadaas socota laakiin ana ka dambeeyo runaantii dad waa ka dambeeyaan aftiyaasha shalay dilan way ka dambeeyaan way joogaa wali meesha dhiman way nool yihiin faanteen dad wali awa hadda waa wali gunfaan dhiigooda la la qasho baamino qalasa ku dheerana anaga faat maqaarkooda ma gadeena adduunyada gadeena faanteen adaamino sheekada waa si dheeraan ee faat hadda doqon ahay ama xoolo ahay aniga anfaa ibraad walaashay gara u leeyahay ana ka hadlo walaashay qofna aan sinaan u ogolaan meel naftiba u ogolaan walaashay uma ogoli ee walaasha waa u ogolaan meelaha qaar afaan dibka laga daayo wala isbarana laakiin tawfiiq wasbarana kuwa cuno ma kana dawad ilfka oo body karka oo tawfiiq doo socdo walaashay ma wadeenay hal qof baa xad kaliya laakiin boqolaal oo baxay walaashay 99 qof ayaa hartay intaan wala dilay aniga lacagna way istaan ku bixinaya qofka xiga malaha afaan xaqi cadaalad ayaga hayo fahmin afaan marka waxa leeyahay asxaabay afaamino illa dilan qof kasto oo awood inuu dilo cidaas lacag anaha ay soo wadiyo aniga $15,000 sina $10,000 hal qof cidaas wax ka soo dilaadana afaanteen hadda saasta walaasha la soo celiyo xal rawa xal masuulad ku jiro xalaha dhan hatta hadda hartay hadda xal masuul rawa walaasha la soo celiyo hooyadii xabsa lagu soo daayo hal xaalta ma ogol laakiin walaasha la soo celiyo walaasha ma ogol inuu habiy hatta la seexdo way dhacdo wala seexda ku dhaa laakiin sinoo kala seexdo haddii cadaalad jirto ali dil ninkaas afaanteen waayo ninkaas ma hor soo gursi caruur leeyahay walaasha ma soo gursan diintu xaqta in la tacsiriyo boqol lagu dhufto laakiin ninkaas walaasha xaraan ka qabaa lawani ku meersanta sheekada iyo xal xilwaanada hor fadhiyeen waxa u baahnaa walaasha ninkina meelkii joogo isoo shay cidaas lacag ana tina afaanteen $10,000 sina ninka meesha joogo isoo shay gabarna isoo qabto waa isku dhamaad laakiin ana xamar usoo soo amaanaya afaamino waxa uu maxay tahay hadii sixirka uu qolan lahayn waa la dhaqmi lahayn sixirka bisay qalaas ku nacna jireerta wallahi billah walaashi waa si laawan Soomaali walaalka islaam laakiin sixirkaas ku nacay waa sixirka waxa kaliya ku nacay jireerta sixirka ma ogtahay inuu nuuc laga dhigo hooyada abaad oo walaalkaada oo hooyada hoosaab bil caloos ku soo waday aad garanay dawlad maxalla waxa ka fariisan hooyada xabsi ku jirto ma runtii isku sheego ilaahay laga xasuusto Soomaaliya ku dhaa afaanteen
فول حمضة هو دش كودة جوز قرب لا تلاقي دي دعان كيا هذا ما كده نخرج له متقل فهمت نخرج له متقل نكرق وحال وتقل إنه ميلها خارق يا فهمت خرج ولا شيء أنا قلبي ملي ولا شيء جرير موجلي هاي قصبا مصينا ولا شيء جرير سحروه دلا كحيا كودا خير ما نيجينا يا ما دي بدوها السلام عليكم أصحاب تواني سلام دمتين وردق دق أصحابته شيء كان يا وردق دق هلي شرقري هلي شرقري سويا عورت أصحابته دمان وان برشوان مقعي أحمد يدو محمد الله ويلي قول الله شاهي حالي سويا dadkii sawacay koolka iga daayaan dadkii sawacay koolka iga daaya live ku jira waa aragtiin koolka iga daaya please and please sheekada waxa qadaro ee dawladda Soomaaliya wado ninkii gabadha la shaahay walaashay ma bixinin walaashay ma dhiibin dadkii dhiiba u baahana walaashay naag la qabo waaye meesha jooga neesha warsada afka jooga asxaabe magaciisa saddexna waa sheegay dadkii yaqaan inta aqoon Axmed Yido Maxamed Ali dhaha gabadha walaasheeda ay walaashay jireer ma siin mana siin doon ninkii walaashay jireer siin aasiyo asaga wataala ala soo yaa horta video ay shar garay marka sheeko kale cusub waan ayaa faantay dawladda Soomaaliya waxa leeyahay fudeedkii iyo akhlaaq xumada iyo madaxdeen waxa leeyahay siday u fudaadeen balaxo kale soo fudaado iyo Cabdi Shire yaar jacayl soo fudaado gabadhaas ma dhalin Cabdi Shire gabadh abgaal mursays ka dhalaan waa gabadh daamaan kowda meesha ku bixiya loo baahan yahay aroos qarno qof kaliya loo baahan gabadha nin soo afka jooga qabo ana siiyay walaashay waaye faatay jireerna ma siin gabadha meel ku maxamed Sheekh Bashiir waxa leeyahay gabadha musna qabo walaalkeeda oo Soomaaliya jireerna ku xiranto ilaaha ka boqo dawladda Soomaaliya waxa leeyahay naag la qabo naagtan gabadha waa la qaba walaashay waaye nin soo afka jooga qabo oo aniga si gacantay ku siiyay meel lood kuma xiranto ni maqlaysan inta maqlays farta soo taagto mali maqlaya inta fiirsanaas video soo garayso asxaabe mali maqlaya waa ku maqlaynaa dhaha haday maqlaysiin warka meelaha wareegayna niso gabagabay u baanaay okay horto ninka dhinta Allah u naxariisto waa dhintay jannada Ilaahay geeyo waxa leenahay marxuum dhinto waa walaalkeena Soomaaliya waa ka xunaay aan naftiga ku xun oo gabadha la dhashay dhibka dhaca uu dhacay Allah u naxariisto sala waxa la yaal taagan laakiin dhibka weena taagan qofka uu dhinto laakiin qofka nool si loo badbaadinayo qof sixir si loo badbaadiyaa jacayl iyo sixirna meel ma wada galaan kowda hooyadeena way xiran tahay waxaan dhihi lahaa hooyo ha ooyin marka hooyaday dilkan way ka wareysay xabsiga ku jirtay ninka dhintaa xir hooyaday faanteen sheekada Soomaaliyeed fudaadka iyo dhibka awoodin hooyaday way ka horeysay markii ninka dhimanayay faanteen hooyaday way ka horeysay markii ninkan dhimanayay hooyaday 6 maalin la xirnaa markii ninkan dhimanayay dadka beenta iyo inhaabka waxa leeyahay dilka hooyaday
dilka waa loo dadka leeyahay maamada way dishay hooyada meeshan dilin dadka dilana waa dad ma kana gabadha ehel u ah xaqna u leeyahay inay dilaan waayo nin jiray gabarka ka wata laba bil sixraday afgooyay sixraday baxarka u geeyay wabiga geliyay kulli walaasha ninkii jiray silahay oo si ha sixra asaga afaanteen ani walaasha ma siin afaant dawladda Soomaaliya waxa la yahay cadaalad waxay ka yaqaanaan mala cadaaladna ma yaqaanaan afaanteen jireen walaasha si maay ana ku dhahay walaasha waa la qabaa nisoo afka jooga qabo meher labaadna ku mehermo waa xaraan arooska qaran waxa la leeyahay geeri qarna dhici doonto haddii saas ku sii socdaan been ma sheegay afaanteen gabar dad ay ka dhalatay marka waxa la leeyahay asxaabay shir gareeya xanaaq wuxuu iga muuqdaa walaasha ma siin leeyahay jireere ma kulno la leeyahay walaana ma jireere aniga walaasha dhasho oo madax tixriya leh wallahi billahi tala dhimashan ka xiga tirkeena tago kowdaha ninka walaasha siin lahaa hasi walaasha anti fiida walaasha aniga la soo kortay anaga gacantayda ku soo koriyay kowdaha dhaqankaas ma laha dhaqan jireer waa dhaqankaas oo sixira gabar iska aamus meel iska taagay weligii ma aragteen oo hadliinba oo hooyada xiran tahay waxa socona ma kowda hadii gabadhan hadii jireer la siinaa walaasha ma lagu bilaaway khayr iyo farmaajo ha siiyaan gabdhooda 20 marixaan iyo 20 mursada ha siiyaan gabdhaha ma fahanteen la talaata ma kala siiyaan aniga gabadhan la diiweena ma fahanteen marka khayr ra'aynta kaligiisa ka hadlay aniga ma fahanteen waa dhaleen waana ka dhashay fahanteen laakiin khayr waa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya gabadhiisa siiyay khayr si la dhaxdo cadaalad iyo falan afaan عبد الشريع يا رجال وحلا يا جودي ساسيو نيك جريرك ويلك لشن بدي جريته حلا سيو هبلا وترس خر لو دغاي ولا شيء كلا رس خر لو دغاي عدالة ما كودا ولا شيء ولا قوا منها قبو ميرك لو كمحرت شيخ بشير ماشو كعودي فانتين علماء الصومالي مو متلك ربا وانا انت وحالين لا جودا ابهد وابهي ما ديبين ان ما ديبين هويدا way xirantahay ma diibin ba gawar hooyada xiranba meher ma ku dhaco afaantiin aabaha siyaay soo dhin aabe anoo dhalay faanti aabe ma diibin anaa ku dhahayo ninki dhahay gawar aabaheedu siiyay aabihi siyaa u baana inuu ay keeno marka waxaan leeyahay aabe gawar muusan diibin afaantiin mana diibi doono mana bixi doono faanti dawladda marka waxa leeyahay sheekada way si fogeynaysaa in ma xalin karto adees xalin karin sheekada in iska dhamaato way fiican tahay sheekadan hooyo la soo daayo family way fristan ka bacdi gabadha ma aragtay arooska aan wala sheegay waa in hooyada loo tagaa aabaha loo tagaa anayna la soo hadlaa dadka gabadha family leedahay gabadha afgoo ma ka dhalan afgoo gabadha wadada ka qabsadeen sheekadan way dheer tahay 2 bil soo socotay dagaalkan wuu soo socday afaanteen ay soo wicin marka waxa leeyahay dawladda Soomaaliya waxa leeyahay marka sheekada waa dheer tahay sheeka dheer waaye qisa dheer waaye qisadan dawladda waxa leeyahay ku fududaatay aad iyo aad u fududaatay wixii hadhow ka dhici doono jireed ma dhaafay ana hadda runtii sheegay dawladda Soomaaliya jireed ma dhaafi doono hooyada dartin dila ama iska dhaafa familka dhan mursada abgal ina soo qabtin dila laakiin sheekada way soconaysaa ma dhamaan doonto hadda runtii sheegay afaanteen way soconaysaa sheekadan ina dilna oo maana soo afka ugu maana aniga Soomaaliyeena waa maana been ma sheegay gabadh walaalkeeda ahay aniga hadii hadda maanta hooyada la soo deelay mise la soo deelay waa isku oo dhameanay aniga walaashay ma agseexanayso sheerasna waa dilay aniga sundooli aan kitaabka jaamaca jareer ina abtiilin hadda runtii sheegay aan fahanteen jareer qofkii inuu dhiiwaro hadii ciidiisa siiyaan anaga ma bixinayno sawir cad maahan mana soo galaa anaga dhintay dhintay ninka diidra mise ninka wala mise ninka xumaalaha إيش الجريء؟ عليش الجريء؟ أنا جريء ماله يسوق جلامة خان كودها. لا أصحابي شكله ودرت أنفانتين كل أنا وأمان دونا جريت الدرس كي جوا واسنا قانا خفك وحي شيء هو صحي وصل شيء هو صحي وصل شيء بليز على صوعن بليز على صوعن ninki siisala mise ninki iska daala walaashii siisala jareer ninki siisala dhaqankiisa dhaqamo ma ka baxay brada xaqiiqada waa ku dhimanaa aniga
ما كبحها فيسبوك أنا توفيق قفكي جح مالا أمسي قفكي جح مالا أسيو تلا فانتين أنا ولا شيء جرين مسينا ما نسين دونه ما ندعته فرماجي غير حسيان فانتين فرماجي غير قبله حسيان دل حق جوديس حسيا دور أسي جرين سنين عيار جعل جوديس حسيا أسيا أساد دارود يا فانتين كل جود حسيان أنا مرسل يبقى أشكال لا مسينينه حديثي والله سي أروش خنا ودا عليه قبلنا سيدعاء جريت واسيقوينا أفانت جريت وأبدا سير أنا من بدينا يعني ما حد يقول ده بديان ما بدين توفاك بدل دقيست ما بدينا يكودا قفكي إنه رو جرير جودي سيو حسيست ولا شيء مسين مركب لكن رأتي وحلاها دفك اللي أسي بديني سيمان وحلا اللي شهورنا مان واحد دقاي وحالك دقاي مجرو أخليين هالشقيو وحني لا هاي شيء كذا أو الدين شيء كسو أنا سمعان دولة سومالي وحلاها أروس كقناريسين أسخر كلا داعي فهمتين أقرن لي بس يدري سيمانه وحد كله أنا هاد نفس أنت أنا شاب قال يقص بسيوارة قال يا فهمتين وحلا يسيب برا معنا لا أنت يا سيفوين بلوين أنا يا فهمتين ولا شيء نفرع لا هدي المضل الرواه كل وادي عدالة دي ورجوتها وادي محمد دلين دلك أو كهرسي فهمتين مركي عدالة دي للشيء عدالة وكله إنها جرينا ماركتي يبقى لي مرسل دقن ولا هي مقدش دقن ولا هي قف بقف دي بقالة دي لا بقالة صابو كل متى قف بقالة ماركتي على الدلي ما نقص لنتان أرضية على الدلا دلك محوك بدل دلك وري محوك بدلها مرة فهمتين مركو حلايا هاي أصحابي شكل أو دين كوش السعودة على السوق فاتي كل أنا جورا والله قوا دتك دي بحلوانة دي ما يصدق من عليه دتك دي بحلوانة من واجرين مجموعة دارات ما يصدق اللي هو فاتين جورا هاي حاسو كجرتو أراس قرنا وريايا ما ورت هذا شيء إيه يأكل شيء مركب حلايا مدغنا ناس نيجي دلنا كودا أنا دلنا تجودا ما ديبين ما ديبين دونه جرير مثلا نيجي ولا سيسين دون جرير حسي واقع جريت وجهاني وكفرنا مدك هاسي ايغ فضيلك الدوله نوعا نو فضيلك كاس واي دوله كان لميد الصومالي عدالة اساس u jirto وزاره waxa sheegay waxa leeyahay shakada waa ka aamusantahay ina ka insha Allah kugu duwo farmaajo Allah kugu duwo jagada la waxa ku weyn doono gudoomiyaha gobolka Banaadir oo loo bilka aamusna gudoomiyaha degmada Yakshiid oo cambaareenaya ciidamadiisa weeyay maalin kasta waa loo keenay jiray ninka dhinta Allah naxariistay loo bilaa waardiinay oo maalin kasta qoriya lagu hayay maalin waa la xiri jiray dibkan islaacan ayaa ka dambeeyay dawladda ilaa meesha degana waa degmada Yakshiid gudoomiye leedahay asaa maalin la luushi jiray wada la xiri jiray xabad koridi jiray marka waxa u baahanahay cadaalad la sheego inay gudoomiyaha soo qabtaan gudoomiyaha gobolka Banaadir loo bil meesha shakada ka jirta asaga ka aamusnaa inuu dhaho cadaaladda xilwaano siyaasiyiin oo beelaha ka dhashay amaamada soo dimeynay maamada wax dambi ay leedahay malaha hadii cadaalad la fiiriyo hooyaday dilkan way ka horeysay xaqdar u xirneed gudoomiyaha gobolka u xirneed gudoomiyaha degmada u xirneed ayagana ka dambe $700 ku qaateen hooyaday xiristeed ma fahantiin ninkaas aan siiyeen dalxan dhiibo lacagtaas gabadha walaasheena loo bil Muqdisho ku maqaneed dalxa gurigiisa ku jirtay runtu waa doomana laakiin aniga maanta waa soo baxay ma fahantiin waxa uu ogeen aniga sheegaya ii sheergalay gurbiyada ha lagu sheekareeyo meel walba dalxa insha Allah gacanta cadawga ku dhimanaysa koodhe gacanteena ku diray haddaan nool aniga waan imanaya runaantii been ku sheegay adaa dibi bilaash awneys markii xal walaashay koor taagneedna maskiin amal waa aamusneed ilaan dhiiga ku degay ninka waa soo duugay walaashay aragtay ninka inuu gacan gelisid kullee laga yeeli ma ku dhaha wax kale oo yeelay jareer la siinay walaashay waxa arkin kana idinka bilaawa doona ku bilaawa marka muhiimadda waxay tahay dawladda Soomaaliya gabadha meesha dhalan gabadha anaga dhalatay hooyadeeda dhashay hooyadeena xiran tahay afaanteen hooyaday waxa la hooyaha weyn ninka ku xumaala afkiga qabanayo afkii ma qabsamayo afaanteen kulli baasha meesha yarta ayaga geen hageeyaan afaanteen marxuumku inta ma haysta aniga marxuumku wuu dhintay Allah u naxariisto qaraawa joogto tola joogo family joogo waa la guda galaya aan faanteen kulli waxa waaye hooyada meesha dilin bilaash dadkaas u leeyihiin faanteen wax mar loo baana ma jiro faanteen
xaqiiqda in laga dhunto ma ahan afka waa leeyahay laakiin maanta afka waa furtay waxa ogaataan sheekada inay sii qarxayso inay sii dhamaaneen gudoomiyaha gobolka Banaadir waxa leeyahay injineer Riso sheekadan gobolka aad degan gabadhan adeerta adeerta Daawuda ma fahamtay adee abgaar ah adee hooyo abu ku leedahay ma fahamtay adee gabadh dhiigaata aan fahmin oo gabadhaada si dareerka ma fahamtay gabadhaada ka bilaw cadaalad marata gabadhaada ka bilaw ana cadaalad ma ana ali toogto maxamed laakiin gabadha bixi horta ma fahamteen أنا هذا ما يحضر ما كره لكن عدالة أوبانا فاتين جود نك بحية أوبانا أبي موسى بحين جود قفك بحية أوبانا إنه بحية أوبانا على شيء جود الخوا ومير كحرن ونلسي ولو بلن قال يران تهدي أجو سو أفريقيا أساس شغال هذا دين أصحابي وحص أنا أمان أخلي جل أنا مهن وح مضى صومالي كذا دعوة جود بس حرمته مرنا رتين أفجوا لجي وبيجي الحجري ولا شيء عشان تسحرك waxaas ay sheegeen jiran ijlaana way siqaan aan fahmino isku dhaqan ma isku diin ma diintu wana qaban laakiin ku dhaqmaan ninka Uganda sulaashi sila jirar Uganda si jirar isku mid ma siina walaashi infaanteen alay shar gareeyo ma bixina walaashi xaq waxa uu leeyahay oo hal xitaa walaashi ma bixin aniga mana bixi doono ninka walaashi jirar siinay asay u taala abaadeen oo ay dilka way ka horeysay bilaas leeyahay duqad maamad way dishay maamad ma laha maada ogninka dilay ninka joogay dadkii tawfiiq way ka aamusay sheekadan gudoomiyaha degmada Yakshiid ka aamusay asaa hooyada maalinta qori ku hay abad aseen u xiran tahay ninka dhintaan xiray maalinka ninka dhimanayo hooyadii maxkamadda beenaysa ma fahamtay cadaalad ma geer galashada hooyadii ku jirtaa maxaa lagu geey si adii la marsin maxkamadda la marsin laakiin hooyadii xabsiga ku jirtaa dawladda Soomaaliya waxa leeyahay cadaaladda meesha ka shaqeyn arooska qaran la sheegay aas qaran ugu bedelayo laakiin sheekada hadii asii wadin way dhamaan doontaa laakiin wax dhamaana uma eko ninka walaashi jirir siina asii u taala ana ma siina walaashi afaanteen marka dhinta siya daartiin hooyadina dila markay dhimato ay dhimana siya walaashin hala raaxaysto laakiin meesha ku noolaa loo baahan yahay falkan fal laga dambeeyo wiya oo aragtaan bilaash oo dalax isla waalay cadaalad وعدالة قبل سنة قبلها جلاد أنا وقرصده ودخل ملين أنا أسكت دخل ملين لكن أسكت ديوان ناي سحر كي بلايا أنا ونعنا وأنا قدام فهمتين مركب على يا صحابي إيش الجريء إيش رأي مدحوينا هجرتو برلمان هجرتو وح أنا أدي عدالة لسه ورستها واحد تاي ما نتا أي ما عدالة نكال ضمحوها عبد الشرع يرجع جود موسى دالي شريك موسى لله كي جود أنا يلاتي قرب كينو قبصنا ولا شيء مسنك جود اللي والسي ولا شيء الأمير كم يحرمته قال ما ولا شيء مسلم هل ميرا كحرم فهمت ولا شيء 15 years جبتها براد ودليسي أصحابي كودا حور العيون ولا شيء جور سومالي وجلي عن نجري لسي أنا كسور جيدا أنا ودي مناي لكن تيرتو إن جري جورستو أفهمت ويش حرمتها سيد ولا شيء وكذا أفهمتين وأنا عص أفهمت عرفت هاوس وجيدس عليها جوري ما مدها هدلو شريرك سو مسلم ماهن نفتي تنقيسو خوريسو بوغل عيد جرير غورسدو عندنا وكل قاد سي جريرتين غورسدو تفهمت دو فاري انا جوري جرير غورسدو waxa leeyahay silka ashta loo soo faanteen waxa ku tarees mar ila walaasha way ana walaasha waa qal laa aniga xabar jooglahay abaanteen laakiin nasiib leeyahay inta ka joogaa abaanteen ninkii rabo جميلة أنا قدن واسحرمت عمي هذا جرير ما أقوى أو كافي كيه مركب حقولها ولا بعاري ماشي إسكاك بحكوده خير نيرجينا يا لا يفك هجارو هلا يشر جريو أفهمتين ولا شيء ما بحنين أفهمت ولا شيء نكع كور ريني كوحر نذبة شيء كان هالكاسك وقتها أبين مو سبحين هذا يلا شيئان حد الله اللي ما سبحين محكمة إيمان دونا وين عدين دونا نكي بحيه وحال عبد الشرع يرجع وأوبهنا ماشي كبحيه ما فهمتني وهذه نفتي صبح حساب حاسي موسى وقال لك كور حاسي كجبت لك وهذه حاسي محي وقشي قبل إذا جعشاي بس أنا إجرار سيسو خلاص حبسي وحي أودني حبسي قشو أنا حبسي وهو يتي إلا لما تحت أودا قبل أنتم تشرير هرتي وقرصن لها يعملك تشرير يدل تما تشرير كا ترحيق عليه ما فهمتني مركو حلاي
waxaan leeyahay asxaawe ninkii gabar jareer walaash inuu si hasiyo bilaash oo qosleysa bilaash marka leedahay waa qaldan tahay walaasha jareerka si adaa qaldanay ee habartaha ka yeesho dheer cadaa ku dhashay gawdhe marka waxaan leeyahay asxaawe waxaas wax suucay ma aha wax ana ayeli kara qalbigeyga gali kara ma aha qof kasta oo maanta wiil kasta oo Soomaaliya fahanti laakiin idinka hal xabba gurigooda iyo gurigeena hal xabba u dhaxeeyo 45 sano dirisnaa wixii yiin wixii gudaan wixii siiina ognahay fahanti laakiin marxuum ganac ka sheegay mar walaa Allah una xariis jannada Allah hageeyo fahantiin dad badan oo shaqada ka dambeeyay lacag ku qaadanayo waxa leeyahay magac nina qameeso caadi nina qameeso caadi soo jirta Allah fahantiin maamaad waxay caadi Soomaali ma goodo meed sheekada ninkii xal ka hadlay jareerkaas guursto dhaan fahantiin oo hooyada xabsi ugu jirtaa fahantiin waa runtiis waxa jiro ogiyaa fahantiin laakiin gabadh walaashay aniga aqaano ana niyo nooc ma hasho walaashay ana gacanteeda ku soo koriyay fahantiin marka asxaabe dhalinta xaafad tawfiiq waxa leeyahay dhalinta aniga dhalataba oo abgaalka iyo marsaxa leeyahay xeerka la jibin fahantiin xeerka ma ahan jeer isma guursan ma isgalno rumaartiin laakiin umada kalba kan oo sushubka oo hooyada mise abo sushubkiya ay ha sistaan fahanti laakiin birti markii adag soo gaarto dhaawac soo gaaro hooyada oo xiran iyo walaasha oo ninka watay laba bilaan arkin walaashay hal TV ka arkay fahantiin waa muruug walaashay anagu arkay marka arkay waa la yaabay si u fadhiso halaas qof ma soo hortaagarto walaashay fahanti ana wala shadaada abba macaan ku jeclahay kaalna keenta isku cadaado weega xusanaysa mar wajiga saarnaysa ana dhiigeeda fahanti halaas bil aadam soo hortaagtay walaashay noocaas ma hadli karto fahanti gabar hooyada xiran ma dhigi karto dadka iska dhaafaan saan waay waalidka madax adeegiin waxa la yocsi waxa la maxaa dhigi kartaa dadka maxaa ka codsanay ninka family iska daay waxay taagan tahay waxba qof sixir waa aragtay halaas waa fahmino mar gabar way sixiranta waa gabar yar maskiina fahanti oo sixir la cabsiyo waliba sixirka waa isku ridaa fahmino heeru hal taabsiya la maqli jiray laakiin waa la cabsiyo fahantiin marka meesha ku dhaqan bilaayaan loo baahaya marka shaqada dhaqan ma laha waxa leeyahay xilwaanadii waxaan sameeyay xalay ayagoo raali haddana soo celiyaan kulley walaasha lama qabo laba meel kuma xiranto haraali geliya hadaan sixirkan ha ka furaan sheekh xalaf di meesha murugoonayo waa sheekh Bashir ilaa saas u fiirinay faham sheekh ma sheedaan waaye suwan maalacada ku dhacay kowdhaha afaanteen marka dadka qaar way arkaan laakiin waxa hortay marxuumka Allah u naxariiso faham laakiin gabadha la dhahay waa waxa leeyahay aroos qarna loo sameeynaya aas qarna oo dhacdo filaya faham laakiin ilma kale waxa leeyahay siyaalena ma waxa laga hagaajinayo ma la fahanteen laakiin waxa leeyahay walaasha oo ku lalato hooyada dhashay ya waxa arti ahaa koodhe jileec ahaa fahant jileec waa taa walaasha nin jireer aad qaan dad qodaasi walaasha gudka qoday xaafada iyo qoday kama soo qodo walaasha da serious aday ku taala fahant laakiin cidda waasna qaan siinaayo qofa aqaano walaasha ma siin karo mana siin doono fahanteen naga caayta maayo laangaaw waa fahanteen marka sirkoo jireed ha garaaco kulli walaasha kulli waxa waaye marka sabray ruux nool aan fahanto oo la sixray laakiin wali mustaqbal way leedahay fahanto ya waa soo ceshanaya sixirka ka furanaya guriga gashanaya fahanteen ayadoo dheeman quruxdaas ay leedahay brother fahamino mid alla shansinaya fahanto oo ma yaranayo oo jacayl i joogo fahamino hawo maanta la ana qalaas laakiin jireerka waa laga furaya ma ku xiranto ogeyahay nijaas waa nijaas toban mar la iska dhaqaya walaasha horta loo bila loo qabeynaya kowda ya markii loo qabeeyay ka bacdi caaqila loo qabeynaya fahanteen ya sixirka la dhaqaya fahamino badda la geliyo wabigay geeyeen fahamino dawladda markii waxa leeyahay xilwaanada Soomaaliya waxa leeyahay dadka siiyay gabadhaas isma leeyihiin gabadhaas iyo qaraabo xataa ma tihiin fahant waxa leeyahay sheekada waa sheeko dheeraatay gabadhan laba nin kuma xiranto waa la qaba aabaheed waa aabay hadda la hadlay afaatan laafna cawa niisoo gelina aabay waxaan leeyahay ma bixin gabadha adeerka bixiyaha noo keenan alleena afaat oo meelaha luqeeda ku soo mareen ana jooga aabba jooga hooya joogto xiran ma xiranto waxa jinsa xataa ma dhigays gabar hooyada xiran aabay diiday laba bil ma qantahay sixirku ma qantahay hooyada qor lagu hayay dirka hooyada ka hor way xirneed hooyada jareerta waxa la baanteen gudoomiyaha degmada yaqshida xiray baan 7500 alisi hooyada xiristeeda bas kaliya waa laan dheer hooyada fahanteen gabadheeda halaas u dagaalamaysa gabar kasta hooyo dhashan waxa leeyahay haw ogolaan jireer gabadhaada maalmaha la buunaya aroos qarama dhigay ka bacdi maxaa dambeeya ma fikirtay horta
maxaa ka dambeeya fikirtiin gabadhi baa la siiyey maxaa ka dambeeya xaggee la geenaa guriga jareerta la geenaa abaad soo reeconaysa kitaabka jaamaca abaad anaa ka dambeeya laakiin ina soo cunay baahan abaad oo wax qaleela marka ayaan hal iska wado sheekadaha socota laakiin anaa ka dambeeyo runaantii dadna waa ka dambeeyaan aftiyaasha shala dilanna way ka dambeeyaan way joogaan weli meesha dhiman way nool yihiin fahanteen dad weliba cawa hadda waa wala gun fahanteen dhiigooda la cawa in la qasho baamino qalisa waa ku dheerana anaga fahanteen maqaarkooda ma gadeena adduunyada gadeena fahanteen adaamino sheekada waa si dheeraanaya fahanteen hadda doqon ahay ama xoolo ahay aniga anfici baraada walaashay gara u leeyahay anaa ka hadlo walaashay qofna aan sin aan u ogolaan meel naftiida u ogolaan walaashay uma ogoli ee walaasha waa u ogolaan meelaha qaar afant dibka laga daayo wala isbarana laakiin tawfiiq was barana kuwa cuno ma kana dawad ilifka oo body karka oo tawfiiq doo socdo walaashay ma wadeenay hal qof baa xad kaliya laakiin boqolaal oo baxay walaashay 99 qof ayaa hartay intaan wala dilay anigana lacagna way istaan ku bixinaya qofka xiga ma laha abant xaqi cadaalad ayaga hayo fahmin abant marka waxa leeyahay asxaabay fahmino illa dilana qof kasto oo awood inuu dilo cidaas lacag anaha ay soo wadiyo aniga $15,000 sina $10,000 hal qof cidaas wax ka soo dilaadana abanteen hada saasta walaasha leeyo socod hadii xal rawa xal masuulad ku jiro xalaha dhan hatta hadda hartay hadda xal masuul rawa walaasha leeyo socodiyo hooyadii xabsa lagu soo daayo hal xaalta ma ogol laakiin walaasha leeyo socodiyo walaasha ma ogol inuu habiy hatta la seexdo way dhacdo wala seexday ku dhaa laakiin sinoo kala seexday hadii cadaalad jirto ali dil ninkaas abanteen waayo ninkaas ma hor soo gursi caruur leeyahay walaasha ma soo gursan diintu xaqta in la tacsiriyo boqol lagu dhufto laakiin ninkaas walaasha xaraan uu ka qabaa lawani ku meersanta sheekada iyo xilwaanada hor fadhiyeen waxa u baahnaa walaasha ninkina meelkii joogo isoo sheegay cidaas lacag ana tina faanteen $10,000 sina ninka meesha joogo isoo sheegay gabarna isoo qabto waa isku dhamaatay laakiin ana xamar usoo soo amaanaya hada mino waxa uu maxay tahay hadii sixirka uu qolan lahayn waa la dhaqmi lahayn sixirka bisay qalaas ku nacna jireerta wallahi billah walaasha waa si lahayn Soomaali walaalka islaam laakiin sixirkaas ku nacay waa sixirka waxa kaliya ku nacay jireerta sixirka ma ogtahay inuu nooc kala ga dhigo hooyada abaad oo walaalkaada ku hooyada hoosaab bil caloos ku soo waday aad garanay dawlad maxalla waxa ka fariisay hooyada xabsi ku jirto ma runtii isku sheego ilaahay laga xasuusto Soomaaliya ku dhaa afaanteen فالحمد وش كود جوز قرب لا تلاك ديجي دعنكيا هذا ما كده نخرج له ما تقل فهمت نخرج له ما تقل نكرج وحاله تقل إنه ميلا خار خن عيفانت خرج ولا شيء أنا قلبي ملي ولا شيء جرير موجلي هاي قصبا مصينا ولا شيء جرير سحروه دلا كحيا كودا خير ما نيجينا يا ما دي بدوها السلام عليكم أصحابتي واني سلام دمتين وردق دق أصحابتي شيكان يا وردق دق هلي شرقري هلي شرقري سويا عورت أصحابتي دمان واني برشوان مقعي أحمد يدو محمد الله ولي قول الله شاهي حاليسو يا dadkii soo wacay koolka iga daayaan live ku jira waa aragtiin koolka iga daaya please and please sheekada waxa qadaro ee dawladda Soomaaliya wado ninkii gabadha la shaahay walaashay ma bixinin walaashay ma dhiibin dadkii dhiiba u baahana walaashay naag la qabo waaye meesha jooga neesha warsada afka jooga asxaabe
magacayga saddexaadna waa nii sheegay dadkii yaqaan intaa aqoon axmed yido maxamed ali dhahaa gabadha walaasheeda ahay walaashay jareer ma siin mana siin doon ninka walaashii jareer siinaya ha siiyo asaga wataala hala soo yaaca horta video waa ishar garee marka sheeko kaloo cusub waa aniga ayaa fahamtay dowladda soomaaliya waxaa leeyahay fudeedkii iyo akhlaaq xumada iyo madaxdeen waxaa leeyahay siday u fudaadeen balaxoo kale soo fudaaday iyo cabdi shire ciyaar jaceyl soo fudaado gabadhaas ma dhalin cabdi shire gabadh abgaali mursays ka dhaleen waay gabadha daamaan kowdhaa meesha ku bixiyaa loo baahan yahay aroos qarna qofka dhigala loo baahan yahay gabadhaan nin soo afka jooga qabo anaa siiyey walaashay waaye ma fahamtay jareerna ma siin gabadhna meerka ma xamo sheekh bashiirna waxaa leeyahay gabadhni muslimna qabo walaalkeeda oo soomaaliya jareerna kuma xiranto ilaaha ka boqo dowladda soomaaliya waxaa leeyahay naag la qabo waa naagtan gabadha waa la qabaa walaashay waaye nin soo afka jooga qabo oo aniga sii gacantay ku siiyey meher labaad kuma xiranto ma maqlaysaan intay maqlayso fartaa soo taagto mali maqlayaa intii fiirsanayso video soo soo garayso asxaabay mali maqlayaa waa ku maqlaynaa dhaha hadday maqlaysiin warkaa meelaha wareegaya nii soo gabagabaya u baahanayo okay horta ninka dhinta allah u naxariisto waa dhintay jannada ilaaha geeyo waxaan leenahay marxuum dhinto waa walaalkeena soomaaliya waa ka xunnahay aan naftiga ku xun oo gabadha la dhashay dhibka dhaca wuu dhacay allah u naxariisto saan lagu xaliyaa la taagan yahay laakiin dhib ka weynaa taagan qofka wuu dhintay laakiin qofkaa nool see loo badbaadinaya qof sixiran see loo badbaadiyaa jacayl iyo sixirna meel ma wada galaan kowdhaa hooyadeena way xiran tahay waxaan dhihi lahaa hooyo ha ooyin marka hooyaday dilkan way ka horeysay xabsiga ku jirtay ninka dhintaa xiray hooyaday ma fahanteen sheekada soomaali weyn fudeedka iyo dhibka awoodiin hooyaday way ka horeysay markuu ninkaa dhimanayay ma fahanteen hooyaday way ka horeysay markaa ninkan dhimanayay hooyaday 6 maalin la xirnay markuu ninkan dhimanayay dadka beenta iyo inhaabka waxaa leeyahay dilka hooyaday dilka waa loo dadka leeyahay maamada way dishay hooyaday meeshan dilin dadka dilana waa dad markana gabadha ehel u ah xaqna uu leeyahay inay dilaan waayo nin jareer gabarka ka wata laba bil sixraday afgooyay sixraday baxarka u geeyay wabiga geliyay kulli walaasha ninkii jareer si lahaay wasi ha sixra asaga afaanteen ani walaasha ma siin afaant dowladda Soomaaliya waxa leeyahay cadaalad waxay ka yaqaanaan mala cadaaladna ma yaqaanaan afaanteen jareerna walaasha siin maayo anaa ku dhahay walaasha waa la qabaa nin soo afka jooga qabo meher labaadna ku mexirmo waa xaraan arooska qaranna waxaa leeyahay geeri qarna dhici doonta haddii saas ku sii socdaan been ma sheegay faanteen gabadhan dad ay ka dhalatay marka waxaa leeyahay asxaabay shir gareeya xanaaq wuxuu iga muuqdaa walaasha ma siin leeyahay nin jareer ma kulno la lahayd aniga ma jareer aniga walaasha dhasho oo madax tixriya leh wallahi billahi ta'ala dhimashaan ka xiga tirkeena tago kowdaha ninka walaasha siin lahaa hasi walaasha MTV walaasha aniga la soo kortay أنا قعدت كوسو كوري كودا دخان كاس ما لها دخان جرير ودخان كاس وسحرة جور إسكا أمس مالك تاي ولقي ماركتين أو هاللي يبا وهو يد حرن تاي وحاس أنا ما كودا هدي جوران هدي جرير لسنا ولا شلو ما له بلاواه خير إفرماج هالسيان قبله لو أتمر ريحان لو أتمر صلاة هالسيان قبله ما فهمتين لا أتمر كلا أنا يقولون ديونا ما فهمت مركا خير رأي كل شيء كان الله يعني فهمت waa dhaleen waana ka dhashay faanteen laakiin qeere waa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya gabadhiisa si qeere si la dhaxdo cadaalad iyo falan afaan cabdi sharic ciyaar jacayl waxa leeyahay gabadhiisa siiyo ninka jareerka wiilka la dhashin ee badii jirata hala siiyo ha bilaawato aroos khar loo dhigay walaashay kale aroos khar loo dhigay cadaalad ma ku dhaa walaashay waa la qabaa ninha qabo meer kale kuma xirta Sheekh Bashiir meesha ku coobay afaanteen culimada Soomaaliya ma matali karaba أنا أنتي وحالي لا جودة أبهد وأبهي
ma dhiibin anna ma dhiibin hooyadan way xiran tahay ma dhiibinba gabar hooyada xiranba meher maba ku dhaco afaantiin aabaha siyaay soo dhin aabe anoo dhale afaanti aabe ma dhiibin anaa ku dhahayo ninkii dhahay gabadha aabaheedu siiyey aabihii siiyaa u baahanayo inuu ii keeno marka waxaan leeyahay aabahey gabadha muusan dhiibin afaanteen mana dhiibi doono mana bixi doono afaanti dowladda marka waxaa leeyahay sheekada way sii fogeynaysaa yani ma xalin karto haddaysa xalin karin sheekada in iskaga dhamaato way fiican tahay sheekadan hooyo la soo daayo family fristan kabacdina gabadha maaragtay arooska anoo la sheegaya waa in hooyadeeda loo tagaa aabaheed loo tagaa anagana lala soo hadlaa dadka gabadha family leedahay gabadha afgeeda ma ka dhalan afgeeda gabadha wadada ka qabsadeen sheekadaana way dheer tahay 2 bil ay soo socotay dagaalkan wuu soo socday afaanteen hay soo wicin marka waxaa leeyahay dowladda Soomaaliya sheekada waxaa leeyahay marka sheekada way dheer tahay sheeko dheer waaye qisa dheer waaye qisadan dowladda waxaa leeyahay ku fududaatay aad iyo aad u fududaatay wixii hadhow ka dhici doono jareed ma dhaafay ana hadda runtii sheegay dowladda Soomaaliya jareed ma dhaafi doono hooyadii daartin dila ama siska dhaafa familka dhan mursada abgal ina soo qabtin dila laakiin sheekada way soconaysaa ma dhamaan doonto hadda runtii sheegay afaanteen way soconaysaa sheekadan ina dilna oo maana soo afka ugu maana aniga Soomaaliyeena waa maana been ma sheegay gabadh walaalkeeda ahay aniga hadii hadda maanta hooyadii la soo deeyay ama la soo deeyay waa isku oo dhameanay aniga walaashay ma agseexanayso sheerashan waa dilay aniga sundooli aan kitaabka jaamaca jareer ina abtiideen hadda runtii sheegay aan fahanteen jareer qofkii inuu dhiiwaro hadii ciidiisa siiyaan anaga ma bixinayno sawir cad maahan mana soo galaa anaga dhintay dhintay ninka diidra mise ninka wala mise ninka xumaalaha إيش الجريء؟ عليش الجريء؟ أنا جريء ماله يسوق جلامة خان كودها. لا أصحابي شكله ودرت أنفانتين كل أنا وأمان دونا جريت الدرس كي جوا واسمع قانا خفك وحي شيء هو صحي وصل شيء وهو صحي وصل شيء بليز على صوعن بليز على صوعن ninki siisala mise ninki iska daala walaashii siisala jareer ninki siisala dhaqankiisa dhaqamo ma ka baxay brad xaqiiqada waa ku dhimanaa aniga ma ka baxay Facebook ranto fi qofkii xumaala mise qofkii xumaala asii wata la faanteen ana walaashay jareer ma siinaay mana siin doono mana dhicito farmaajiye qeyro hasiyaan faanteen farmaajiye qeyro gabdhood hasiyaan dalaxa gawdhiis hasiya doro asay jireen isliin ciyaar jacayl gawdhiis hasiya asaga asaa daarood ee faateen kulligood hasiyaan ana marsada yaabgaas ka dhalaa ma siinayno haddii si la siiyo aroos kana u dhacay gubnina si dhacay jireet waa si guweena afaant jireet waa u badisay aniga mana badinayaan madaxda dowladda badiyaan ma badan doofaarka dhal dhageysta ma badinaya kowdhaa qofkii inuu rabo jareer gawdhiisa hasiisto walaashay ma siin marka laakiin raati waxa leeyahay dabka la usii badinaysa imaan waxa la sii hoona maan wax dagaay oo xaalka dagaay ma jiro aqligiina ha shaqeeyo waxaan leeyahay sheekada awdiin sheeka soconaysa ma ahan dowladda Soomaaliya waxa leeyahay arooska qanaarigiisiin aas qaran kala dhacay faanteen qaran leeyahay ku sii dareysay imaan wax hadda kulay ani had nafs aanteeda ina shaab galay u qasbaysi waa galay faanteen wax la sii burbura maahane dhalinta yaa la sii fogeen beelweena anaga faanteen walaashayna faraha la yaqaan hadii nabad la rabo waa kulli way cadaalad hor joogtaa wayeen wax ma dilin dilka way ka horeysay faanteen marka cadaalad la sheego cadaalad waa kale nahay jareerna maaragtay iyo abgaal mursada dhaqan uu leeyahay muqdisho dhaqan ay leedahay qof dilo boqolaala soo ku dhimatay qof boqolaala maaragtay ala dilay maalinka dhintaan ardayda la dilaa dilkan muxuu ka bedel dilkii hore wuxuu ka bedelaa malaha faantiin marka waxa leeyahay asxaabe sheekada awdiin ku sii socda la soo faatay kulli anaga gabadha waa la qabaa dadka dhiibay xilwaanada dhiibay maysan dhalin ayaga dadka dhiibay xilwaanada mid waa jireen madna waa daarood meesha dhalin lawadooda faateen gabadha way xasu ku jirto aroos qarna u dhigaya ma warta ha dhashay eeyaa ku dhashay marka waxa leeyahay ma taqaana
meesha niga dhalan kow dhaha aniga na dhalatay gabadha ma dhiibin ma dhiibi doono jareer ninkii walaashii siin doono jareer hasiya waa kaa jareerta way joogaane waa ka furayna mid kale hasiya ayaga fudeedka dowladda nooca waa nolol fudeedkaas waay dowladda ka dhalamada Soomaaliya cadaalad saas u jirto wasaaraha waxa uu sheegay waxa leeyahay shirkada waa ka aamusan tahay inaad ka hesho Allah kugu duwo farmaajo Allah kugu duwo jagada Allah waxa ku weyn doono gudoomiyaha gobolka Banaadir oo loo bilka aamusnaa gudoomiyaha degmada Yakshiid oo cambaareenaya ciidamadiisa weeyay maalin kasta waa loo keenay jiray ninka dhinta Allah naxariistay loo bilaa waardiinay hooyada maalin kasta qoriya lagu hayay maalin kasta waa la xiri jiray dhibkan islaacan ayaa ka dambeeyay dawladda ilaa meesha degana waa deegaan waa degmada Yakshiid gudoomiye leedahay asaa maalin kasta lagu shi jiray hooyada la xiri jiray xabad ku ridi jiray marka waxa u baahanahay cadaalad la sheego inay gudoomiyaha soo qabtaan gudoomiyaha gobolka Banaadir loo bil meesha shirkada ka jirta asaga ka aamusnaa inuu dhaho cadaaladda xilwaano siyaasiyiin oo beelaha ka dhashay ama ma soo diminay maamada wax dambi ah leedahay malaha hadii cadaalad la fiiriyo hooyaday dilkan way ka horeysay xaqdar u xirneed gudoomiyaha gobolka u xirneed gudoomiyaha degmada u xirneed ayagana ka dambe $700 ku qaateen hooyaday xiristeed ma fahanteen ninkaas aan siiyeen dalxan dhiibo lacagtaas gabadha walaasheena loo bil Muqdisho ku maqaneed dalxa gurigiisa ku jirtay runta waa dhuumana laakiin aniga maanta waa soo baxay ma fahanteen waxa uu ogeen aniga sheegaya ii sheergalay gurbiyada ha lagu sheekareeyo meel walba dalxa insha Allah gacanta cadawga ku dhimanaysa koodhe gacanteena oo kugu dilay haddaan noola aniga waan imanaya runaantii been ku sheegay adaa dhiibi bilaash awneys markii xal walaashay koor taagneedna maskiin camal waa aamusneed ilaan dhiiga ku degay ninka waa soo duugay walaashay aragtay ninka inuu gacan gelisid kullee laga yeeli ma ku dhaha wax kale oo yeelay jareer la siinay walaashay waxa arkin kana idinka bilaawa gowdan ku bilaawa marka muhiimadda waxay tahay dawladda Soomaaliya gabadha meesha dhalan gabadha anaga dhalatay hooyada dhashay hooyada xiran tahay afaanteen hooyada waxa la hooyaha weyn ninka ku xumaala afkiga qabanayo afkiga ma qabsamayo afaanteen kulli baasha meesha ayaga geen hageeyaan afaanteen marxuumku inta ma haysta aniga marxuumku wuu dhintay Allah u naxariisto qaraawa joogto tolaa joogo family joogo waa la guda galaya aan faanteen kulli waxa waaye hooyada meesha dilin bilaash dadkaas u leeyihiin faanteen wax mar loo baana ma jiro faanteen xaqiiqada laga dhunta ma ahan afka waa leeyahay laakiin maanta afku waa furtay waxa ogaataan sheekada in si qarxayso in si dhamaaneen gudoomiyaha gobolka Banaadir waxa leeyahay injineeriso sheekadan gobolka aad degan gabadhan adeerta daawuda ma fahanti adeer abgaar ah adeer hooyo abu ku leedahay ma fahanti adeer gabadh dhiigaata aan fahmin oo gabadhaada si jareerka ma fahanti gabadhaada ka bilaaw cadaalad marata gabadhaada ka bilaaw ana cadaalad ma ana ali toogto maxamed laakiin gabadha bixi horta ma fahanteen ana hooyada madaxda oo dhiman kara laakiin cadaalad u baana faatay gabadh ninkii bixiya u baana aabe muuse bixin gabadh qofkii bixiyay u baana inuu bixiya u baana halay sheego gabadh la qabo oo meher ku xiran oo nin siiyay oo loo balan qaaday yaraanteeda ajoog South Africa asal shaqeynaa faatay asxaabi waxaas soconaa maan aqli galaan maahan wax oo umada Soomaaliya ka dhacdo gabadh way sixran tahay marna artiin afgoya la geeyay wabiga la xagiliyay walaashay way cabsantaa sixirka waxaas ay sheegeen jiran ijlaan way siqaan faamilo isku dhaqan ma isku diin ma diintu wana qaban laakiin ku dhaqmaan ninka Uganda sulaashi sila jireer Uganda si jireer isku mid ma siina walaashay infaanteen halay shargareeyo ma bixina walaashay xaq waxa uu leeyahay oo hal waxa taa walaashay ma bixin aniga mana bixi doono ninka walaashay jireer siinay asay u taala abaadeen oo ay dilka way ka horeysay bilaash leeyahay duqad maamad way dishay maamad ma laha maadaama uu ninka dilay ninka joogay dadkii tawfiiq way ka aamusay sheekadan gudoomiyaha degmada Yakshiid uu ka aamusay asaa hooyada maalinta qori ku hayay abaan aseen u xiran tahay ninka dhintaan xiray maalinka ninka dhimana hooyaday maxkamadda beenaysa ma fahanti cadaalad ma geli galsada hooyaday ku jirtaa maxaa lagu geeyay si adii la marsin maxkamadda la marsin laakiin hooyaday xabsiga ku jirtaa dawladda Soomaaliya waxa leeyahay cadaalad meesha ka shaqeyn arooska qaran la sheegay qaran ugu bedelay laakiin
sheekada haddii aad sii wadiin way dhammaan doontaa laakiin wax dhammaana uma eko ninka walaashii jareer siina asiga u taallaa anima siina walaashay afaanteen markaa dhinta siiya daartiin hooyadiina dila markay dhimato aniga dhimanaad siiya walaasheen hala raaxaysto laakiin meesha ku noolaa lahaa aa loo baahan yahay falkaana fal laga dambeeya wuu yahay waa aragtaan bilaashu madaxa isla waalaayey cadaaladda wuxuu cadaalad ku baraysana gabdhaha jilaacda anagu guursado war dhaqan malin anaga isku dhaqan malin laakiin isku diin waan nahay sixirkii balaayada nagu nacna anaga dhan afaanteen marka waxaan leeyahay asxaabay ii sheer gareeya ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha ha gaarto baarlamaanka ha gaarto waxa aniga aad iyo aad cadaaladda la soo hor istaaga waxay tahay maalinta ay amaada cadaaladda ninkaa la dhan muxuu ahaa cabdi shir ciyaar jecel gabadha muusa dhalin shareerka muusa dhalin laakiin gabadha anaga la dhalatay garabkii inuu qabsado maaha walaasha misninka gabadha leeya waa la siiyey walaashii laba meer kuma xiranto gaala maaha walaashii waa muslim hal meeraa ku xiran ma fahanta walaashii 15 years ay jirtaa brother waa dheeliisiin asxaabay ku dhaa xuur lacaan waa walaashay gabar Soomaaliyeed jilcaan in jireen la sii ana ka soo horjeedo ana u dhimanaay laakiin tiirto in jireen ay guursato abaad way sixran tahay sida walaashay oo kale afaanteen waa nacas abaad ceebta waxa soo jiidaysa leedahay gabaray maamada ha dilo shareerka soo muslim ahaan naftii tan dheeso qoreyso boogala ay jireen guursado عندنا وكل قاد في جريرة إني جورسو تفهمت توفاري أنا جود جريرة جوستو حاليا هاي سلك أشتغل أو شو فهمتين وحكوا ترى مرة إلى ولا شواي أنا ولا شو قال الله وأنا يلا حبر جوجلا فهمتين لكن نصيبي لا أنت قلت شو يعني فهمتين نكتي رضو جميلة أنا قدنا واسحرم تعمل هذا جريرة ما أقوى أو كاش كيه مركب حقولها ولا بعاري ماشي إسكاك بحكوا ده خير نيرجينا يا leefka ha gaaro ha la sheer gareeyo afaanteen walaashay ma bixinin afaanta walaashayna ninka ka hor inay ku xirneedba sheekada halkaas ku egtahay aabeen muusa bixin adeerada la sheegaan hadda la hadlay ma sabixin maxkamadda imaan doona wadayn cadeen doonaan ninkii bixiyay waa waxa la cabdi shir ciyaar jecel waa u baahanaa meesha ku bixiyay afaanteen hooyadii naftigeeda soo bixaysaa xabsi muusa u galay ninkan ka hor xabsi ku jirta laakiin hooyadii xabsi maxay u gashay gabadheeda ay jeceshahay بس أنا إجرار سيسو خلاص حبسي وحي أود أنا حبسي قشون أنا حبسي وهويتي إلا ما تحت أود جودي أنتوا تشرير هرت وجور سنلا يعملك تشرير يدل تما تشرير كترحي عليه أفانتين مركو حلاي وحن الله يا سعوي نيكي جور تشرير ولا شيء نصي هسي بلاش أقص ليس بلاش ما كلا وخلدنتها ولا شيء جرير كسياب ده خلدناه يا هبرتها كايش دار عذاب كل شيء كودة مركا يعني لا يا أصحابي وحاس وعاية معها أنا أيلي كذا قلبي يقلي كذا معها قف كستو ما أنت ويل كستو Soomaaliya فهمتي لكن إنك حل حبة يقولي حل حبة ودحي أفرت إيش سنة درسنا وحي جدال وحي سيين أوجنا فهمت لكن مرحوم هناك شيء مرة ولكن الله ونحل الجنة الله يجيو فهمتين ضد بدنا وشجعنا قدام بيه لحكوا قانا أيو وحلايا ما يعنينا خميسو عادنا خميسو عاد سوجبت الله فهمتين ما واحد عايز Soomaali ma go'doomeen sheekada ninkii xal ka hadlay jareerkaas uu guursto dhaa faanti oo hooyada xabsi ugu jirtaa faanti waa runtiis waxa jiro ogiyaa faanti laakiin gabadh walaashay aniga aqaano ana niyo nooc ma hasho walaashay ana gacanteeda ugu soo koriyay faantiin marka asxaabay dhalinta xaafad tawfiiq waxa leeyahay dhalinta aniga dhalataba oo abgaalka iyo marsaxa leeyahay xeerka la jibin afaanteen xeerka ma ahan jeer isma guursan ma isgalno rumaartiin laakiin umada kalba kan oo sushubka oo hooyada mise abo sushubkiya ay haasistaan afaanteen laakiin birti markii adag soo gaarto dhaawac soo gaaro hooyada oo xiran iyo walaasha oo ninka watay laba bilaan arkin walaashay hal TV ka arkay afaanteen waa murugo walaashay anagu arkay marka arkay walaashay si u fadhiso خلاص خوف ما يصير تاجرت ولا شيء فهمت أنا والله صدقنا أبا معه كجعله قال لك أنت أسكت عن ذا ويجي حسين مرة يجي سهرنس أنا شديد بقى فهمت خلاص بالعدل سوي سكت ولا شيء نوع اسمه هذا كرتون فهمت قبل هو يحرمه وليه كرتون ذاك عسكرها فهم سوا وقالت يا مدح أذيقين وحلا يعصي وحلا ما حد يقطع ذاك معك عسنا إنك أفهم لك كده حيت أنت وحوا بخوف سحر وارث خلاص وأفهم منه من الجوار بسحر أنت والجوار ومسكينة فهمت وسحر العبسي ولي سحر كانوا نشكري ذا مفهمينه هذا التفسير المخرج نفهم لكن هو العبسي فهمتين
marka meesha ku dhaqmi lahayn loo baahaya marka sheekada dhaqan ma laha waxa leeyahay xilwaanadii waxaan sameeyay xalay ayagoo raali haddana soo celiyaan kulley walaasha lama qabo laba meel kuma xiranto haraali geliya ha dhahan sixirkan ha ka furaan sixirka ha ka furaan sheekh xalaf di meesha murugoonayo waa sheekh bashir ilaa saas u fiirinaya faham sheekh ma shaydaan waaye suwan maalacada ku dhacay kowdhaha abaanteen marka dadka qaar way arkaan laakiin waxa urtay marxuumka Allah u naxariiso faham laakiin gabadhan la dhahay waa waxa leeyahay aroos qarna loo sameeynaya aas qarna oo dhacay doona filaya faham laakiin ilma kale waxa leeyahay siyaalena ma waxa laga hagaajinaya ma la fahanteen laakiin waxa leeyahay walaasha oo ku lalato hooyada dhashay ya waxa artay ahaw koodhe jileec ahaw fahant jileec waa taa walaasha nin jireer aad qaanin god qodaha si walaasha godka qodaha xaafada iyo qodaha kama soo shaqado walaasha da serious aday ku taala fahant laakiin cidda waasna qaadana siinaayo qofa aqaano walaasha ma siin karo mana siin doono fahant naga caayta maayo laangaaw waa fahanteen marka sirkooda jireed ha garaaco kulley walaasha kulley waxa waaye marka sabray ruux nool aan fahanteen oo la sixray laakiin wali mustaqbal way leedahay fahanteen ya waa soo ceshanaya sixirka ka furanaya guriga gashanaya fahanteen ayadoo dheeman quruxdaas ay leedahay brother fahamino mid alla shansinaya fahanteen oo maadeeranayo oo jacayl ii joogo fahamino hawo maanta la naqalaysa laakiin jireedka waa laga furaya ma ku xiranto ogeyahay nijaas waa nijaas toban mar la iska dhaqaya walaasha horta loo bila loo qabeynaya kowdha ya markii loo qabeeyo ka bacdi caaqila loo qabeynaya fahanteen ya sixirka la dhaqaya fahamino badda la geliyo wabigay geeyeen fahamino dawladda markii waxaa leeyahay xildhibaanada Soomaaliya waxaa leeyahay dadkii siiyey gabadhaas isma leeyihiin gabadhaas iyo qaraabo xataa ma tihiin fahanteen waxaa leeyahay sheekada waa sheeko dheeraatay gabadhan laba nin kuma xiranto waa la qaba aabaheed waa aabay hadda la hadlay afaateen laafna caawa niisoo gelina aabay waxaan leeyahay ma bixin gabadha adeerka bixiya noo keenan alleena afaat oo meelaha luqeeda ku soo mareen ana jooga aabba jooga hooya joogto xiran ma xiranto waxa jinsa mataa ma dhigays gabar hooyada xiran aabay diiday laba bil maqan tahay sixirku maqan tahay hooyada qor lagu hayay dirka hooyada ka hor way xirneed hooyada jareerta waxa la baanteen gudoomiyaha degmada yaaqshida xiray baan 7500 alisi hooyada xiristeeda biskiliye waa laan dheer hooyada faanteen gabadheeda halaas u dagaalamaysa gabar kasta hooyo dhashan waxa leeyahay haw ogolaan jireer gabadhaada maalmaha la buubuunaya aroos qaran dhigay ka bacdi maxaa dambeeya ma fikirtay horta maxaa ka dambeeya fikirtin gabadhi la siiyay maxaa ka dambeeya xagee la geenay guri jireerta la geenay afaan soori cunaysa kitaabka jaamaca afaan ana ka dambeeya laakiin soor cunay baahan afaan wax qaleela marka ayaan hal iska wado sheekadaas socota laakiin ana ka dambeeyo runaantii dad waa ka dambeeyaan aftiyaasha shalay dilan way ka dambeeyaan way joogaa wali meesha dhiman way nool yihiin faanteen dad waliba awa hadda waa wali gun faant dhiigooda la la qasho baamino qalasa ku dheerana anaga faant maqaarkooda ma gadeena adduunyada gadeena faanteen adaamino sheekada waa si dheeraanay faant hadda doqon ahay ama xoolo ahay aniga anfici brada walaashay gara ulay ana ka hadlo walaashay qofna aan sin aan u ogolaan meel naftiba u ogolaan walaashay uma ogoli ee walaasha waa u ogolaan meelaha qaar faant dibka laga daayo wala isbarana laakiin tawfiiq wasbarana kuwa cuno ma kana dawad ilfka oo body karka oo tawfiiq doo socdo walaashay muu diinay hal qof baa hadda kaliya laakiin boqolaal oo baxay walaashay